barnaamijkaanu dhegaystayaal to idin maqashin oo ahaa kii shanaad barnaamijyadii wax ka sheegayay taariikhda soomaalida waxaa dhegaystayaal aan ugu dambayntii idinku maqashinay inqilaabkii ka fashilmay saraakiishii militariga ee reer waqooyiga ahayd bishii disembar sannadii kii oo aan wax ka weydiinay cabdirasaaq xaaji xuseen iyo cabdilaahi kongo barnaamijkan waxaanu haddaba ku bilaabaynaa sidii ay ku dhammaatay dacwadii lagu soo oogay saraakiishaasi cabdilaahi kongo oo saraakiishaasi ka mid ahaa waxa uu noo sheegay in sida tan dacwadu ay ku dhammaatay isagoo ku bilaabaya muuqaalkii maxkamadda. maxkamaddu waxay ahayd horta waxaan ku sheegi karaa riwaayad bay ahayd. wakhtigaana laba sharci baa waddanka jiray. sharciga ingiriisku wuxuu jiray xagga waqooyiga, sharciga talyaaniguna wuxuu jiray xagga koonfurta. sharci soomaaliyeed oo labada isku daray ma jirin. labada sharci mid waliba wuxuu leeyahay jurisdiction, xad buu yuu gaari karaa, xukunkiisu gaari karaa. marka bani aadam waa inaan lagala bixin. shakliga kale ee maaragtay foormaha maxkamaddu ahaydna waxay qaadigu wuxuu ahaa ingiriis, dacwad ku-ooguhu wuxuu ahaa talyaani, nimankana daafacayay hindi bay ahaayeen. luqadda meesha socotay annagu aanu ku hadlaynaa soomaali bay ahayd. marka bal adigu maxkamadda mahsalada ah intaa maxkamad laga hadlayo adigu bal imaajin garee. maxkamadduna runta waxay ahayd fadaaxad bay u ahayd nidaamka siyaasiga. markii way nagu heli kari lahaayeen hadday mutiny nagu qaadaan. mutiny hadday idinku qaado way idinku heli lahaayeen. waa nagu heli lahaayeen. laakiinse waxay yidhahdeen maximumka la beegsada oo dilis ah. annaguna markaa waxaanu isku daafacnay, waxaanu caddaynay horta waxayda waxaan la yidhaahdo jumhuuriyadda soomaaliya inaana sharciba ku dhisan inaanay jirinba. ayaa ku doodayseen? yaanu ku doodnay. waxaanaanu nidhi challenge garaynay xukuumaddii bal inay keento wixii laysku raacay, sharcigii lagu mudoobay. leanno laba act of union baa jiray saad u og tahay waddanka oo draft of act of union ah. labadii act of union ciidamo kama hadal. ta kale waxay nala beegsadeen articaleka 121 baa la yidhaahdaa oo Indian Penal Code-ka ah. waa dil. constitution-kii waddanka markaa lagu dhaqayayna court martial ma ogola ilaa waqti dagaal mooyaane. markaa dee constitution-kii iyo Indian Penal Code-kii baa la yidhi iyamaa sarreeya, iyamaa labada leh afdaliyad. waa iswaafaqi waayeen. keebaa la raacay baa markaa la waa in constitution-ka la raacaa. markaa sidaasaynu uga baxsanay maxkamadda caskariga ahayd. ta kaleen kayska daciifta waxay anagu rag militarian ahayn oo u dhaarsan Queen Elizabeth. boqorada ingiriiska u dhaarsanaydeenba? boqorada ingiriiskaan u dhaarsanay. dee cid damboona dhaarisay ma jiro, cid kale aan u dhaaranay maba jirinba. dee kuwankiin aan u dhaaranayna iyada kayska nagu soo ololisay, nagu soo oogtay ma aha. republicii markaa joogayna waataan hore kugu sheego dee wax jiraaba ma jiraan, leanno act of union maba jiraba. waxaana la yidhi kayskii waa laydinku waayey. kaasi wuxuu ahaa cabdilaahi aadan cabdilaahi kongo. haddaba dhegaystayaal, midayntii maamulkii labada gobol ka sakow arrinta kale ee dowladdii ugu horraysay ee jamhuuriyaddii soomaalida hortaalle ama hortimi waxay ahayd gobolladii kale ee soomaalida deganayd ee aan markaasi xorta noqon in la raadiyo. cabdirasaaq xaaji xuseen aanu mar kale idinku celino oo arrintaasi bal ka warramaya dowladdii ugu horraysay tallaabada ay ka qaadatay. waxaan ku bilaabayaa dastuurka soomaalida waxaa la geliyey in ay dawlad kastoo Soomaaliya ay khasab ku tahay inay raadiso wadanada maqan in la isku soo daro oo ay uga shaqayso si nabada. siyaasadda dibadda oo dawladda Soomaalida tiirkeeda koowaad wuxuu ahaa in sidii lagu heli lahaa wadanada Soomaalida maqan sidii xuquuqdooda loo heli lahaa ayuu ahaa. marka wax alla wixii meel la isugu yimid oo urur ah oo dibadda waqtigaas oo ay ma jirin. United Nations haddii la ogolaan karay meelihii kale oo la isugu tegay xukuumadda Soomaalidu marna dib ugama dhicin inay ku dhawaaqdo xaqa ay leeyihiin wadanadaas maqan in loo ogolaado codkooda inay dhiibtaan. hadal meel kasta oo forum oo la isugu yimaado oo suuragal ay noqon kartay xukuumadda Soomaalidu aad bay uga dadaashay. waa dibadii gudahana ummadda Soomaalidu sidaasay rumaysnayd. xukuumadda Soomaaliduna aad iyo aad bay mar walbaba ugu dadaalaysay in dadweynaha Soomaalidu ay ku baraarugsanaadaan muxuu ah fikradaas iyada ayaa lagu dadaalayay. inkastoo haddaba dastuurkii jamhuuriyadda Soomaalida lagu qoray raadinta gobolada maqan ee Soomaaliyeed
waddamada arrintaasi ay ku xidhnayd ee soomaaliya deriska la ahaa wax kalgacala kuma aanay qabin qadiyadda soomaali weyn. rajada ugu dhoweyd waxay ahayd jamhuuriyadda jabuuti oo wakhtigaasi la odhan jiray French Somaliland. hase ahaatee haddii aynu dib ugu noqonno sanadkii 1958 abti xisbiga gooliisku uu ka qaaday dadka reer jabuuti waxa ay doorteen inay ku sii xidhnaadaan ay ku sii hoos jiraan maamulkii faransiiska. ilaa iyo intii haddaba golaha loo sameeyey deegaankaasi sanadkii 1945 nolosha xagga siyaasadda ee jabuuti dardar cusub waxaa geliyey markii sanadkii 1957 la doortay golo sharci oo mas'uul ka noqda arrimaha gudaha. doorashadii ugu horreysay ee golahaasi waxaa ku guulaystay xisbigii la odhan jiray Union Republic oo isugu jiray Soomaali, Anfar iyo Caraba, waxaana hogaaminayay allaha u naxariistay Maxamuud Xarbi. waxaana la tartamayay urur kaleeto oo uu hogaaminayay Xasan Guuleed Abtidoon oo isaguna sidaasi oo kale qowmiyaduhu ay ku wada jireen. markii haddaba doorashadaasu ay dhacday waxaa madaxweynaha looga dhigay jamhuuriyadda jabuuti sarkaalkii ugu sarreeyey isticmaarka ee halkaasi ka fadhiyay ku-xigeenna waxaa noqday maxamuud xarbi allaha u naxariiste. hase yeeshee doorashadii la qabtay 23 bishii Novembar sanadkii 1958 iyadoo taageero xoog leh uu ka helay dhinaca Faransiiska ayaa waxaa ku guulaystay xisbigii uu hogaaminayay Xasan Guuleed Abtidoon oo markii dambe waddanku xornimada u qaatay madaxweyne ka noqday. isaga ayaana markaasi loo doortay inuu ku-xigeen u noqdo wakiilkii Faransiiska halkaasi ka fadhiyay. maxamuud xarbi waxaa dabeetana uu baxsaday magaalada qaahira iyadoo ololihiisu ahaa jabuuti oo ka xorowda Faransiiska. markii dambena 1959 waxa uu tegay magaalada muqdisho halkaasi oo lagu sameynayay dhaqdhaqaaq Soomaali weyn raadinaya. bishii Oktoobar sanadkii 1960 ayaa maxamuud xarbi allaha u naxariistay waxa uu ku dhintay shil dayuuradeed isagoo ku sii jeeda magaalada muqdisho oo ka soo laabtay booqasho uu ku tegay waddanka Shiinaha iyo waddamadii Yurubta bari. haddaba dhegeystayaal imakana bal waxaan idin maqashinaynaa mid ka mid ah si aan ugu nasanno heesihii gobonimo doonka ee Jabuuti markaasi loo qaaday. waa kan Axmed Naaji. dadka reer Jabuuti dadka reer Jabuuti nin xornimo u jeeda jalaafada gumaysiga kama joogsanayeen. dadka reer Jabuuti dadka reer Jabuuti nin xornimo u jeeda jalaafada gumaysiga kama joogsanayeen. waa inaydun jiidhaan isticmaarka jeebisaan. waa inaydun jiidhaan isticmaarka jeebisaan. jaalayaal walaalayaalo jaalayaal walaalayaalo iska jira gumaysiga wuu jaadad badayow jirjiroole weeye idinkala jaraaye. iska jira gumaysiga wuu jaadad badayow jirjiroole weeye idinkala jaraaye. haddii aynu haddaba u baydhno dhinacii NFD sanadkii 1960 waxaa gobolka Soomaalidu uu ahaa ka ugu go'doonsan horumar ahaan ugu liita qaybaha waddanka Kenya. inkasta oo Soomaalidu aanay si toosa uga qayb qaadanin doorashooyinkii Kenya ka dhacay sanadkii 1957 haddana sanadkii 1959 ruux ayay Soomaalidu u soo magacaabeen si uu ilaaliyo danahooda golihii baarlamaan ee la sameeyey ee la oran jiray Legislative Council. kadib markii la qaaday xayiraadii ururada xagga siyaasadda sanadkii 1960 inkasta oo aan la khafiifin xayiraadihii gaarka ahaa ee saarnaa gobolkaasi haddana Soomaalidu waxa ay taageereen xisbigii la oran jiray NPPP Northern Province People's Party. dowladda Ingiriiska ayaa iyaduna aan mowqifkeeda markaasi cadaynin. waxa dhacday markaasi in Ethiopia ay bilowday olole ujeedadiisu tahay inay kaga hortagto Soomaali weyn oo dhaqan gasha. istiraatiijiyada Ethiopia adeegsanaysay waxay ahayd in xukuumadda Britain ay ku eedeyso inay Soomaali weyn iyadu ay dhisaso, waxaana ay culays Ingiriiska ku saartay Britain inay cadayso siyaasadeeda dhulka Soomaalida ku saabsan.
bishii juulaay haddaba sanadkii 1960kii ayaa macmillan uu ra-iisul wasaaraha ka ahaa dalkan britishka ay la noqotay in arrintaasi sharaxaad uu ka bixiyo waxaana hadal arrintaasi ku saabsan uu ka jeediyey baarlamaanka dalkan britishka waxaa hadalkiisu ahaa sida tan: xukuumadda britishku dhiirigelin iyo taageero midna ma siinin mana sii doonto wixii sheegasho ah ee saamayn ku yeelan karaya xushmadda dhuleed ee french somalilan kenya amaba etoobiya waxaa arrintaasi laga hadli karaa uun ayuu yidhi haddii ay noqoto doonis ka timaada dowladaha iyo dadyowga ay khusayso waxaa haddaba hadalkaasi loola jeeday dhegaystayaal in lagu qaboojiyo etoobiya iyo faransiiska isla markaasna qalbiga loogu dejiyo hogaamiyaashii reer kenya ee aan soomaalida ahayn dhinaca soomaalidana waxaa hadalkaasi uu qiray uun in dareenkooda la qadarin doono. sanadkii 1961 doorashooyin ka dhacay waddanka kenya soomaalidu waa ay qaatacday 1622 ruux oo keliya ayaa isu diiwaan geliyey waxaana markaasi ay ka baqeen haddii ay codkooda dhiibtaan in loo qaato inay ogolaadeen dhalashadoodu inay kenyaan tahay. shirkii kenya haddaba sharciyada loogu samaynayey oo lagu qabtay lancaster house oo magaaladan london ku yaala bishii february sanadkii 1962 wafdi ka yimid NFD waxaa hogaaminayay allaha u naxariistay nin la odhan jiray cabdirashiid khaliif waxaana wafdigaasi ay dowladdii britishku ay weydiisteen in ismaamul gooni oo ah la siiyo NFD inta aan isbedelo kale oo xagga sharciga ah loo samaynin waddanka kenya si ay si buuxda ugu biiraan soomaaliya inta kenya aan xornimo buuxda la siinin isla markaasina xuquuqdii ay heleen somaliland oo boqortooyada britishku gumaysan jirtay ay helaan waxaa taasi ka soo horjeeday labadii urur ee kenya ay lahayd ee la kala odhan jiray kanu iyo kalu shirkaasi london lagu qabtay guddi NFD ay u saartay inay sii daba gasho waxaa ka mid ahaa axmed cabdi oogle waxaa axmed aanu haddaba weydiinay bal inuu nooga warramo shirkaasi waxaa gundhigiisu noqday iyo kii ka dambeeyey ee ka dhacay magaalada rome. arrinka siduu dhacay wuxuu ahaa lancaster waa kii xorriyadda kenya nidaamka qawaaniinkii loo dhigi lahaa laga wada hadlayay marka wafdi baa ka socday axsaabta markaa kenya ka fureed oo kanu xisbiga la yidhaaho jomo kenyatta madaxda u ah iyo xisbi kadu la yidhaaha oo ninkan hadda waddanka xukume iyo ay ka tirsanayeen markaa wafdi ka gooni ah oo soomaaliya oo la ogolaaday inay shirkaa ka qayb qaataanna waa jireenoo NFD lagu magacaabay dooda lancaster dhab ahaan kama aanay qayb qaadanaynin iyaga laakiin halkaasay ku sugayeen oo ma garanaysaa wixii dood ay ka qabeen waddanka xorriyadda la gaarsiin lahaa sifay aga hadlaan waxaa kale oo jooga wafdi ka socda dowladda soomaalida oo maxamed ibraahim cigaal oo markaa wasiirka tacliinta ah uu madax ka yahayna london bay joogeen sidii iyagana wixii ay ku biirin karayaanoo sooda iyagoo ku doodaya NFD inay tahay waddan soomaali ka mid ah. maxaa markaa soomaalida loogu diiday iyaga shirkan ay ka qayb qaataan ee ay dibadda uga joogeen waqtiga lancaster house shirka lagu qabtay? waxa weeyaan ma garanaysaa axsaabti kama ay tirsanabay markaa ay ku doodayaan iyo doodoodii hadda kaba gooni ahba wixii ma garanaysaa ee ka dhacaya meesha dadkan xorriyadda sida waddanka kenya loo gaarsiin lahaa baa laga hadlayay iyagana siday aga go'i lahaayeen ajendaha laga wada hadlayay baa kala gooni ah. sidaa ha ahaatee fursad bay heleen ragga ayaga in ay la kulmaan wasiirul mustacmaraadka iyo dad dowladda ka tirsan ingiriiska nin reginald modling la yidhaahaa markaasayto wasiirka isticmaarka yaa ahaa marka waxaa la kala qortay oo lagu heshiiyeyna waxay ahayd in wafdi marka commonwealth ka tirsan in loo diray NFD halkaasoo ay soo xaqiiqsadaan dadka degan gobolka NFD la yidhaaha waxa ay doonayaan waxa marka lagu doodana ay tahay inay soomaali raacayaan iyo inay doonayaan inay ka tirsanaadaan waddanka kenya waxa go'aan ahoo laga gaaro halkaana ma garanaysaa dowladda ingiriiska ay ku camal fasho marka wafdigaa soomaalida iyagoo faraxsan bay marka waddanka dib ugu soo noqdeenoo malaynay inay guusho meesha ay dhaliyeen. waata waxaad ka warrantay axmed maadaama markaa wafdigaasu iyagoo faraxsan ay soo laabteen arrintaas siday markii dambe isu beddeshay? isla beriyihiiba horta wasiirka mustacmaraadka waa la bedelay oo nin ian macleod la yidhaah yaa wasiir laga dhigay wafdigii waa la soo diray NFD bay yimaadeen 6 magaala markaa la dhihi jiray oo marsabit iyo siolo iyo moyaale oo laga gooyay hadda gobolka waqooyi bari iyo NFD iyo garis iyo mandera iyo wajeer 6 NFD baa la dhihi jiray way wada mareen reportkooda wuxuu ahaa markaa 87% inay doonayaan inay soomaali raacaan marka sidii aanka la ogaa dowladda ingiriiska
way un cagajiiday reportkii in ay soo saarto iyay dib ula dhacday wafdi baa markaa loo diray london wasaarada markaa qaabilsanayd arrimaha gumaysiga wafdigaasaan markaa ka mid aha oo london tegey marka waxay cahdina siiyeen in uu si degdega dowladda ingiriiska go-aan ay u gaari doonto go-aankaana ay ku gaari doonaan shir ayaga iyo dowladda soomaalida ka dhexdhacaya oo magaalada rome lagu qaban doono waxaa dhacday isla intaa haddana in mar kale dowladda ingiriiska ay isbedeshay nin Harold Macmillan la dhihi jiray prime minister oo meesha ka baxay Lord Hume baa prime minister noqday wasiir mustacmaraadkana mar saddexaad baa la bedelay nin Duncan Sams la yiraahdo oo go-aanka u dambeeyay NFD ku saabsan gaari doono yaa meesha soo galay marka waxaan ku soo noqonay wadanka anagoo bal haddana ka dhur sugayno Rome wixii ka soo baxa waad ka warantay Axmed dhinaca wufuuda ka socota Kenya ama kaanu haadeen labadii xisbiye markaas gobonimada doonayay doodooda iyagu maxay hayday ay ku diidanayeen Soomaalidu mowqifka ay taagneed Soomaalida reer NFD wadan ka tirsan inuu yahay Kenya xuduudada sidii uu isticmaalku u dhigan in loo daayo wixii markii dambe Xayla Salaas uu mariyay oo ayuga oo sharciga ka dhigay marka doodooda waxay ahayd wadanka lama qaybin karayo Soomaalida hadii loo ogolaado inay go'aan qola kasta oo xuduud degan sida Maasai ay ku halqabsan jireen oo qaarna Tanzania degan qaarna Kenya degan ayagana waa go'ayna bay dhahayaan marka wadanka xorriyadiisa inay suuragal ba ahaan oo Soomaalida sababteeda uu u kala qaybsami doono iyo marka ku doodayeen waana labada xisbiba halka way ka mideysnaayeen waxaad ka warantaa markii dambe mesela shirkii la isugu yimid magaalada Rome ee wadanka Talyaaniga ee xukuumadda Soomaaliduna markaas ay timi maxay qodobada laga hadlaysay shirkaas sidoo u dhacay muxuu gundhigiisa noqday shirka wuxuu u dhacay waxay ahayd dawladda Soomaalida iyo Ingiriiska inay ka wada hadlaan ilaa sida aan ku sheegay interestiga Soomaalida ay u leedahay NFD wax qarsoon markaa ma sanahayna way ku doodayeen marka wafdi ma garanaysa dawladda Ingiriiska oo go'aankeeda halka laga sugayo iyo dawladda Soomaalida halka inay ku shiraan iyo ahayd wafdiga Soomaalida marka Dr. Sharmaarke oo prime minister ahaa madax u ahaa Cabdullaahi Ciise wuu joogay nin Ali Maxamed Hiraab la yiraahdo wuu joogay Maxamuud Cabdi Caraar nin la yiraahdo marka safaaradii marka cilaaqaadka la kala goosta London ka yimid wuu joogay iyo dhowr kale safiir qayb ninka la yiraahdo rag badan halka ku garanay badooda waa dhinteen Allah u naxariistay marka dawladda Ingiriiska marka sida la filayay wafdigeedii hoos bay u dhigtay oo nin Peter Thomas la yiraahdo wasiir dawli ah wasaaradda khaarijka ay soo direen meesha ama Lord Hume inuu yimaado laga filayay ama wasiir khaarijiyada marka taa qudheeda walwalbay dawladda Soomaalida iyo dadka meesha joogay qudheeda waan jooga Rome marka yay gelisay marka waxa dhibaato ka dhacday wafdi Kenya oo marka daaqili heshay yaa wasaare ka socotay iyagana oo Kenya oo hore Soomaalidan la hadlayna oo nin James Gichuru la yiraahdo oo wasiirka lacagta marka laga dhigo waa daaqili Tom Mboya rag'aan kan ay tahay marka dawladda Soomaalida way diiday waxay yiraan wax dood oo naga dhaxeeya annaga iyo dawlad Kenya ka dhalan doonta malaha waxaan arin isticmaar bay ahayd Ingiriis baa wadankan adoonsanay ama gumaysanay Kenya sidoo xorriyada u gaarsiinaya xorriyad la mid ah waa inay gaarsiiyaan dadka NFD marka Kenya ma wada hadlayno marka waxa dhacay waftigii Kenya in lagu biiriyo wadanka Ingiriiska ay xubin ka noqdaan safay doodooda ay qayb galaan annagoo dhowr oo NFD ka soconayna marka wafdigii Soomaalida in lagu dhaxgoogooyo oo ma garanaysaa qaarkeena ay sidaas ay ka qayb galaan marka go'aan in Ingiriis gaaro iyo ahayd go'aankina ma garanaysaa wuxuu ku dhamaaday si aad u falxun Ingiriisku waxay yireen wax go'aan oo gaaray keenayna malaha Kenya markay xorriyada qaadato inaad ka wada hadashaan weeyaan wafdiga Kenya ninka madaxda u ahaa Tom Mboya ninka la yiraahdo hadlay wuxuu yiri marka waadna soo mari karaysaan oo prime minister Kenyatta marka ya waan idinku casimaynaa Nairobi inaad ka wada hadashaan shirkaas 3 maalmood buu socday aad baan u xusuusnahay Dr. Sharmaarke naxariista Allah si aad buu ugu dadaalay ma garanaysaa shirka inuusan ku dhamaanin ma garanaysaa in sida lagu kala tago asagoo mar Kenya tusay in cilaaqaad quman oo walaalnimo ayaga iyo dawladda Kenya iyo Soomaaliya ay dhaxmareen inta NFD xaalkeeda aanka u yahay sidaan u joognay 3 maalmood markii la joogo baan war helnay wafdiga Ingiriiska galabta dambe inuu tagayo oo London ku noqonayo bas shirka sidaas ay tumba wax community oo la soo saaray ma jirin halkii baa lagu soo kala tagay kaasi wuxuu ahaa Axmed Cabdi Ogle imakana dhageystayaal waxaanu idin maqashinaynaa mid ka mid ah heesihii NFD loo qaad jiray oo fanaaniinta Soomaalidu ay u sameeyeen
adduunka dadka loo abuuray way ogsoon yihiine NFD ayaa leh ummada adduunka dadka loo abuuray way ogsoon yihiine NFD ayaa leh أدونسن ماي عنك أكتوغنو أرقما عنايا كايلا لناينو لا أدونسن ماي لا أدونسن ماي عنك أكتوغنو أرقما عنايا كايلا لناينو لا أدونسن ماي لا أدونك دادك الله أبوري dadka loo abuuray way ogsoon yihiine NFD ayaa leh toddobaadkii hore waxay dhegaystayaal inoo joogtay arrimihii NFD iyo sidii loo raaciyey waddanka Kenya oo aan ka waraysanay Axmed Cabdi Oogleh oo ka mid ah siyaasiyiinta NFD waxaana uu ahaa barnaamijkii lixaad imikana bal aan halkii ka sii anbaqaadno dowladdii Soomaalidu waxay haddaba isku dayday inay la hadasho hogaamiyaashii reer Kenya waxaana magaalada Muqdisho ay ku marti qaatay Jomo Kenyatta oo ahaa xisbiga KANU iyo Ronald Ngalo isaguna ka tirsan xisbiga la yiraahdo KADU dabaaldegii gobonimada Soomaalida bishii July sanadkii 1962 labadooduba waxay istaageen arrinta NFD ay tahay mid daaqil ah dalka Kenya markii la isku afgaran waayay rajada quudaha ee la qabay waxa ay noqotay in lagu xalili karo arrintaasi hiyigii markaasi socday oo ahaa in la sameeyo federation ay wadaagaan wadamada Afrikada bari oo Ethiopia iyo Soomaaliyaba ay ka mid noqdaan riyadaasi oo markii dambe iyada la fahanteedu aan meel marin bishii Maarch sanadkii 1963 markii wasiirkii mustacmaraadka ee boqortooyada Britain uu ku dhawaaqay mowqifkii xukuumaddiisa oo ahaa NFD inay hoos imanayso dastuurka goboleed ee Kenya waxaa taasi ka dhashay in xiriirkii diblomaasiga ahaa ay kala goostaan jamhuuriyaddii Soomaalida iyo Britain ama boqortooyada Ingiriiska waxaa markaasi Britishku ay siinayeen Soomaaliya gargaar dhammaa 1 milyan iyo badh oo giniga dalkan Britain boqortooyada Ingiriiskuna waa xiriirkaasi diblomaasiga go'ay ku eedeeyuna laliyaashii ku yaalay magaalada Berbera ee BBC-du ay lahayd iyo ogolaanshihii loo ogolaa in dayuuradaheedu ay dulmaraan hawada Soomaaliya mar kale ayaynu ku soo laaban doonaa gobolladii Soomaaliya ay raadinaysay arrimahooda gaar ahaan sida loo go'doomiyay Soomaaliya marka ay timaado qaaradda Afrika ee aan imika dib ugu laabanno dalka gudihiisa dabcan waxa aan shaki ku jirin in dhagaystayaal waxa imika aad maqashaan inay u badan yihiin Soomaali ishaysa Cabdirasaaq Xaaji Xuseen oo ra'iisul wasaare ka ahaan jiray jamhuuriyaddii Soomaaliya muddo 3 sanadooda ka horna ahaan jiray wasiirka arrimaha gudaha ayaanu weydiinay balberigaasi sida dawladda iyo mucaaridku ay u macaamili jireen mucaaridyo badan baa yaa xukuumadii ka soo horjeeday oo sida runta mucaaridiyadaas badidooda xaqiiqadu siday tahay anoo hadda aan rabin inaan ku tacadiyo waxay ahaayeen mucaaridyo badidoodu ay ku xiran yihiin dawlado ajaanib ah oo iyagu ideolojiya ahaan uga soo horjeeday nidaamka Soomaaliya ka dhisna waqtigaas marka laakiin xukuumadda Soomaalidu waxay ku tala gashay in ay xoojiso nidaamkaas ay dooratay oo dimuqraadiga ah oo qof walba xaq leeyahay wixii ra'yigiisa inuu sheego oo qofkii dambi cad oo sida sharciga shuruudda u qoran aan gelinin aan lagu ciqaabi karin wixii uu sameeyo ama wixii uu sheego marka xukuumaddu aad iyo aad bay u taxgelisay xuquuqda iyo protectionka muxuu ahaa dadka mucaaridka inay ilaaliso laakiin anigu waxaan isleeyahay xaqiiqadu dadkii mucaaridka ahaa ma ay qiimaynin ma ay garanin qiimaha ay leedahay nidaamka dimuqraadiga ah oo iskama ay taxgelinin inay iyagu ku tacadifalinin muxuu ahaa dhinaca kale xuquuqdooda waxa la waxay doonaan oo badiba qaynuun khilaafsan ayay ku hadlayaan marka ma u malaynayo dhinacooda inay ka soo baxeen mucaaridiintu waajibkii saarnaayo muxuu ahaa qofka mucaaridka inuu mucaarid noqdo waa yahay laakiin inaan waxaan jirin iyo been abuur iyo
waxa iyaga mas-uuliyadooda aan u ogolaan karin qofkii mas-uula usan ogolaadeen ma hubo inay iyagu ka dhowrsanaadeen laakiin dhinaca maamulka dhisnaayo officialka ahaayo xukuumaddu wuxuu ku dadaalay inuu taxgeliyaa wax alla wixii wax faafinana waa loo ogolaa ilaa iyo xataa loo ogolaaday hadday rabaanba raadiyaashii muxuu xukuumaddu maamuleysay sidii doonaan inay uga hadlaan waxaad ka warantaa matalan tusaale ahaan cabdirasaaq haddaad soo qaato waxyaabahaad ku dhaliilaysay matalan mucaaradka waktigaas jiray maxaa ka mid ahaa waxyaalahan ku dhaliilaya hadda kuwa hadda aan bilaabay oo kale waxaa ka mid ahaa bilxaqiiqati muxuu ahaa iyagu waxay ku dadaaleen wax alla wixii xukuumaddan muxuu ahaa dhaawici kara inayan ka gabanin been la abuuro iyo xataa mararka qaarkood muxuu ahaa xataa gacanqaadyo iyo muxuu ahaa ayan ka gabanin haba yaraatee xukuumaddu hadday ka samayn lahayd calaashaan u warcelin lahayd dadkaasna waxaa laga yaabaa inay xataa xaq u lahaan lahayd waxyaalo badan oo sharcigu sheegayay laakiin waxaanu aad iyo aad ku baraarugsanayn xukuumaddii ugu horreysay oo dhisantay weeye nidaamka kanu delikayd weeye waxa kanu waa nagu cusub yihiin intaan ka gaban karno si nidaamkaasu uu qurux ugu muuqdo intaan ka gaban karno oo isaga ogolaano hadday sharciga jebiyaan hay-adaha u samaysan oo qabanaya laakiin inaan ku dadaalno marka waxyaalaha hadda ka mid ah waxaa weeye waxeeroo kale oo lacag oo ajaaniba dawladda baajiyadeeda lacagtooda iyo ka badanba mucaaridka qaarkood dibadda ka helayay oo faafinayay oo xukuumaddu ay ogeyd marka bilxaqiiqati muxuu ahaa uma aanaan dengelinin waxaad ka warantaa cabdirasaaq xilligaasi xukunka rayidka khaasatan markaad eegto waxaan filaya waxaad ka jawaabi kartaa waa intii adigu aad maamulka ku jirtay qabyaaladu dowrkeeda intee leeg buu ahaa ama musuq maasaqa ama eexashadu xagga maamulka markaad eegto bal sharax qabiilku muxuu ahaa bilxaqiiqati waa iska jiray qabiilku muxuu ahaa mar walbaba qofkii raba inuu ku ugaarto qabiilka yaa ku ugaaranayay yaa qofkii muxuu meel raba inuu meel ku gaaro qofkii raba inuu dad taageero uga helo oo xukuumadda ka soo horjeeda xukuumadoo lagu dacweynayo wax iska qabiil qofku hadduu rabo hadal iska guuda jumla waa jiray qabiilku laakiin qabiil lixaad loo bilxaqiiqati markaas sidii hadda wakti dambe muuqanaysay oo saas ma u jirinin musuq maasuq muxuu ahaa haddaan corruption iyo waxaas wax waa iska jireen baan u malaynayaa muxuu ahaa laakiin waxaan isleeyahay sida taariikhda hadda la heli doono haddii dib loo raaco la heli doono haddii africa oo dhan xataa loo fiiriyo soomaaliya waxay geli karaysaa meelaha ugu roonaa xagga corruptionka ayay jiri karaysaa baa la odhan karaa waxaad ka warantaa cabdirasaaq adigu waktigii aad ra-iisul wasaare ahayd maxaad filaysaa in ahaayeen waxyaabaha isbedelka ee cabdirasaaq xaaji xuseen lagu xasuusan karo ee aad samaysay maamulkaagii ama tallaabooyinka waktigaygii muxuu ahaa muddada horta sidaas uma dheerayn muxuu ahaa 3 sano meelahaasaan prime minister ahaa dadka aqoonta waxula hadday raadiyaan waktigaygii xoogayga waxaan saaray waxaa weeye waddankan in loo helo nidaam administration shaqaynaya oo hufan oo karti leh labadaa erey baan ku dhaqmay aniga karti iyo hufnaan nidaam administration ah oo muxuu ahaa aan corrupted ahayn kartina lahoo wax qaban kara ayaan ku dadaalay waxaan ku dadaalay dad badan oo awal xukuumaddii maamulada ku jiray oo jagooyin wadahayay oo bilxaqiiqati intii xorriyada loo dagaalamayay dadaal ka soo sameeyey laakiin aqoontooda iska yarayd bacdamaha iyaga ka bacdigeed hadda dad badan oo wax soo bartay oo xiguba ay joogeen oo dhalinyaro ah oo wax soo bartay inkastoo ayan waayo aragnimo jirinin labadooda waxaan isdhegay aqoontu inay roon tahay kuwa badan baan meeshii ka qaaday waxaan keenay kuwii dhalinyarada ahaayoo wax soo bartay waxaan rajaynayay hadday muddo joogaanin waayo aragnimadiina waa helayaanin marka iyaga ugu dhow muxuu ahaa hadhowto nidaam shaqaynayo efficiency oo wax garanaya in la helo eex iyo qurun inayan midkoodna inuusan jirinin ayaan xooga saaray waxaanan u malaynayaa inkastoo aanan odhan karinin miro weyn baa laga gurtay oo muuqanaya haddana waxaan u malaynayaa geedkaasi inuu caleen cagaara inuu soo muujiyay baan qiyaasaya aniga intii haddaba u dhaxaysay wakhtigii ay Soomaaliya xornimada qaadatay iyo markii ay Britishka xiriirkii diblomaasiga ahaa ay kala goosteen doonistii Soomaalidu ay doonayeen gobolladii kale ee Soomaalida kama soo reynin rajadoodii inkasta oo shirweynihii dadyawa Afrika ee la oran jiray All Africa People's Conference
ee lagu qabtay magaalada tunis bishii janawari sanadkii 1960 gobonnimada ka hor la isku raacay go'aan u janjeeray Soomaali weyn. hase haatee kulankii kaasi ka dambeeyay ururkaasi uu ku yeeshay magaalada Qaahira isla sanadkaasi 1960 wafdigii Soomaalida ka socday si aad ah ayaa looga hor yimid kaasi oo aad moodayso inuu jid u noqday kulamadii kale ee Afrikaanku ay yeesheen oo dhan. Monrovia shir isagana lagu yeeshay 2 bilood kadib waxa qurax ee la isla gartay waxay ahayd in jamhuuriyaddii Soomaaliya iyo Itoobiya ay ka wada hadlaan sidii ay u dhameyn lahaayeen khilaafka u dhaxeeya ee ku saabsan sohodimaha. marka qurax ee iftiinku u soo baxay dhinaca Soomaalida doodoodii ahayd Soomaali weyn waxay ahayd madaxweynihii ugu horeeyay Soomaaliya Aadan Cabdulla Cismaan mar uu booqasho ku tagay waddanka Ghana oo isaga iyo Kwame Nkrumah ay wadajir war ay u soo saareen ay ku taageereen Afrika oo wada samaysata federation. laakiin Kwame Nkrumah taageeradiisu waxa ay ku salaysnayd khilaaf xagga soodinta oo u dhaxeeyay Ghana iyo Togo. ugu dambeyntii wixii rajaa oo Soomaalidu ay ka qabteen Afrikaanku ay ku taageeri doonaan waxa iyagu ay doonayaan waxay burburtay bishii May markii magaalada Sabah lagu qabtay shirkii ururka Afrika lagu sameeyay oo la isku raacay in xuduudihii Afrika sidii ahayna gumaysigu u dhigay aan waxba laga bedelin. dhamaadkii sanadkii 1963 Soomaaliya go'doon ayay ka ahayd Afrika inteeda kale marka la eego. waxa iyaduna haboon inaynu soo qaadno in waddanka Masar oo hormood ahaa dalalka Carabta oo isla markaasna ahaa ka sida xoog leh isagu ugu lug lahaa arrimaha Soomaalida. Masaaridu mowqifka ay ku jirta inuu ahaa mid aad u adag marka la eego Soomaalida waxyaabaha ay doonayeen. waxa masaaridu ay isku dayday sida Professor Ian Lewis oo ku qoray buuggiisa la yiraahdo Modern History of Somalia markii ay taagnaayeen arrimihii NFD in labada dhinacba ay raali geliso. isagoo reedowga magaalada Qaahira ee masaaridu qolaba afkeeda kula hadlayay oo ku taageeray qolaba waxa ay doonayso. markii labada dhinacba hadaba ay ogaadeen reedowga magaalada Qaahira waxa uu sheegayo ayaa masaaridu arrintaasi ay joojiyeen. Soomaalidu haddaba caradii ay ka cadhootay Britishka iyo saaxiibadooda reer galbeedku sida ay ka yeeleen arrimaha Soomaali weyn ayaa waxa ay ku dhaqaaqeen sidii ay taageero meelo kale uga raadsan lahayn. ra'iisul wasaarihii waqtigaasi Cabdirashiid Cali Sharmaarke waxa uu booqday Shiinaha iyo India waxaana laga filayay in taageeradu ay ka timaado dhinaca Shiinaha hase ahaatee waxa taageeradii ay ka timid dhinaca dalka la oran jiray Midowga Sofiyeeti. bishii November sanadkii 1963 ayaa jamhuuriyaddii Soomaalidu si rasmi ah u sheegtay inay diiday taageero military oo dhinaca reer galbeedka oo dhamayd 6 milyuun iyo badh geniga sterliniga waxaana ay qaateen taageero military oo Ruushku siiyay oo ku dhaweyd ilaa iyo 11 milyuun oo geniga sterliniga. ra'iisul wasaarihii waqtigaasi oo ahaa Cabdirashiid Cali Sharmaarke markii uu booqashada ku tagay Midowga Sofiyeeti waxa danjira ka ahaa Axmed Maxamed Aadan Qaybe. Mr. Qaybe waxaan wax ka weydiinay booqashadaasi siday ahayd. Cabdirashiid Cali Sharmaarke isagoo Prime Minister 2 goor buu Moscow yimid mar waxa ahayd 61 markii loo doortay Prime Minister ka bacdi bishii May 61 marka madaxda Ruushka bariga halka dalka xukuntay oo Khrushchev u horeeyay ayay sarkeen marka xiriir uun in la wada yeesho xagga dhaqaalaha in wax Soomaaliya laga taray yimaadeen marka heshiis baa la galay ku saabsan xagga dhaqaalaha dhowr warshadooda tii caanaha iyo tii hilibka Kismaayo iyo ay ka mid yihiin ayaa kala seexday ka bacdi 63 iyo Cabdirashiid soo laabtay markaasna de waxa laga wada hadlay yani sidii gacan Soomaaliya looga siin lahaa xagga militariga arrinka waxa ka yar horeeyay wafdi baarlamaani oo Moscow yimid ayaa Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo Prime Minister ka xukuumad ahaan u soo egmaday Jaamac Cabdullaahi Qaalib inuu kala hadlo Ruushka inayna siiyaan gargaar xagga militariga naga gargaaraan arrinkaas waa noo fulo Khrushchev oo badda madow u jooga nasasho ayaan ugu tagnay halkaas waan la hadalay fariintii ra'iisul wasaaraha u gudbinay adigu markii dambe wuxuu waayahay ra'iisul wasaaraha naftiisa hay yimaada buu yiri ka bacdi ayaa Cabdirashiid yimid bishii July 63 isagoo u socda China ayuuna soo maray way sarkeen Khrushchev waxa markaa ay ballan qaadeen inay Soomaaliya diyaar u yihiin inay ka caawiyaan xagga militariga iyo hubka militariga waxaanu ka codsaday inuu soo diro generaalkii ciidamada xukumay General Daawud Cabdulle Allah yarxamee bishii October isla sanadkaas wafdi uu hogaaminay Daawud Cabdulle Moscow noo yimaadeen marka waxa la guda galay sidii macaawinadaas waxay ka koobnaan lahayd waana lagu heshiiyey
heshiis baa la kala seexday waxaa markaa taa la socotay haddii hub laydin siinaya bay yidhaaheen ruushku dee dadkii isticmaali lahaa hanan lahaa in loo tababaro marka dhowr boqol oo ciidamadeeni ayaa Moscow loo soo qaaday oo dalkii loo jeeday Soviet Union qaybihiisa la kala geeyay wax ku baranay halkaa marka ninka ay weydiisay dee intaasuu markaa ku koobnaa arrinta milisada ku koobnaa abirshid markaa China noo dhaafay wax kale oo markaa laga wada hadlay ma jirin waxaad ka warantay Axmed dhinaca Soomaalida maadaama aad sheegtay iyagu wixii ay doonayeen ruushka dhinaciisu markaad eegto maxaa hindisaha ugu weyn uu watay markaad dhinaca Soomaaliya eegto ama uu ka doonayay ruushku siyaasad Afrika siyaasad buu ka lahaa inuu Afrika ama dawladaha caalamka ee xoroobay ee wixii loo jeeday decolonization ku xoroobay inuu cilaaqaad la samaysto oo waa tartankii ka dhaxeeyay qarbiga iyo dawladda loo jeeday Soviet Union arrin ku salaysan bay ahayd kaasi wuxuu ahaa Axmed Maxamed Aadan Qaybe oo ah danjirihii ugu horeeyay ee Soomaalidu ay u dirtaan dalkii la oran jiray midowga Sovieti imakana gudoomiyaha golaha baarlamaanka ee dalka lama baxay Jamhuuriyadda Soomaaliland oo warayskaasi aanu ka qaadnay haddaba doorashooyinkii madaxweynimada ee Soomaaliya ka dhacay bishii Juun sanadkii 1967 waxaa ku guuleystay Allah u naxariistay Cabdirashiid Cali Sharmaarke waxaanu bedelay Aadan Cabdulla Cusmaan oo lagu tilmaamo inuu yahay ninkii ugu horeeyay Afrika marka la eego isaga oo hab dimuqraadiya lagu soo doortay hab dimuqraadiya oo wax turxaan lahayn ku dhiibay taladii markii Cabdirashiid Cali Sharmaarke uu noqday madaxweynihii Jamhuuriyadda Soomaaliya waxa ra'iisul wasaare uu ka dhigay Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal waxa markii ugu horeysay samaysantay dawlad labada ruux ee ugu sareeya ay ka socdaan waqooyi iyo koonfurba waxaana burburay isaguna ururkii la oran jiray SNC oo ahaa xisbigii ugu horeeyay ee isu keena mudanayaal mucaarid ku ah dawladda oo koonfur iyo waqooyiba lahaa xisbigaasi oo ay sameeyeen Sheekh Cali Jimcaale iyo Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal iyo mudanayaal baarlamaanka ku jiray oo ilaa iyo 20 ahaa dawladdaasi cusub haddaba markii talada ay la wareegtay xaaladii gobolladii Soomaalidu ay raadinayeen waxba iskama bedelin French Somaliland ayaa iyadu hase yeeshee 2 bilood ka hor intii aan isbedelka xagga hoggaanka Jamhuuriyadda Soomaalidu aanu dhicin afti laga qaaday reer Djibouti waxa mar kale ay ogolaadeen ama ay doorteen in xukunkii Faransiisku uu sii socdo waxa kaloo la bedelay magacii dalka oo ahaa markii hore French Somaliland oo laga dhigay dhulka Cafarta iyo Ciisaha dawladdii cusbeyd ee madaxda uu ka ahaa Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal waxay bilowday in siyaasadii lagu raadinayay gobolada maqnaa ee Soomaalida ay wax ka bedesho oo hab diblomaasiyadeed oo ka qabo kii hore ay raacdo kadib haddaba markii wadahadalla ay isdhaafsadeen wafdigii Ethiopia uga qayb galay shir madaxeedkii ururka midnimada Afrika oo ka dhacay magaalada Kinshasa bishii September ayaa Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal iyo Jomo Kenyatta waxa ay ku kulmeen markii dambe magaalada Arusha ee dalkaasi Tanzania iyadoo uu dhexdhexaadinayay madaxweynihii waqtigaasi ee dalka Zambia Kenneth Kaunda goobjoogna uu ka ahaa madaxweynihii dalka Tanzania ee waqtigaasi Julius Nyerere waxaana ka mid ah waxyaabihii lagu heshiiyey in si dhaqsa xiriirka u dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya caadi looga dhigo waxa kaloo taas ka dhashay xiriirka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Britain oo iyagu ay hore u kala goosteen in isagana la soo celiyo talabadaasi uu qaaday Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal kuwii iyagu haddaba markaa siyaasi ahaan ka soo horjeeday si aada ayaa waxay ugu dhaleeceeyeen inuu dalkii wareejiyey doorashooyinkii dhacay bishii March sanadkii 1969 waxaa ku tartamayay 102 ruux oo isu soo taagay 123 kursi axsaabta u tartamaysana waxay ahayd 62 xisbi xilligaasi waxa dawladda Cigaal si xoog leh loogu eedeynayay in hantidii dalka ugu gashay doorashadii iyada oo axsaabta la sameeyay qaar badan oo ka mid ah ay ku dhisnaayeen reernimo waxa si xoogoobay qabyaaladii Allah u naxariistay Cabdilaahi Suldaan Timcade oo lagu yaqaanay qabyaalada aad u nacba aan idinku dhaafno min qalbila قرآنك وقرية غافلين كوارانية كتبا سيدي لكو قريرايا غير خير غيرك كهارين وننك غليوا لالكي كار وننك غليوا لالكي قد لريدي قرآن تذكشا قبضة ووالينسة هدوك الغلال روبكو ووقمع قليلين برحيق قرنكو ومسؤورو اوابو قود صداي غسر لحدنا هدان ليسكا غبانين غبايلي يجرو لنعو قاد كان لقوا شيء
qasti jeeray wada yeelato ay qowlka ku heshiiso qabyo weeyi soomaliday qiirada geeraar waa nin asdeeyiyo nin egeeyiyo nin ijaaza u haystao af soomaaliga daadshayoon ilduubayn weligiise soomaaliya idilkaaba infiraariyo qayniliyo anagafarooniyo waa kiankaadgaayo asal baanu ahayniyo oo dareera la saariyo ubaxoon iskalayniyo oori weerku kuraagiyo ayra layska xabaariyo aarbaarka dambeeya inteeba ku jirteeno waxay aduga ayday ma ogan kari weyday. waa barnaamijkii sideedaad ee barnaamijyadaannu kaga hadallo taariikhda soomaalida waxaanaannu kaga bilaabaynaa doorashooyinkii ka dhacay jamhuuriyaddii soomaalida sannadkii kii waxaa aqlabiyaddii ku guulaystay xisbigii wakhtigaasi talada waddanka haya ee la odhan jiray israa'el inkastoo axsaab tiradoodu ay ka badnayd 60 ay ka qayb qaateen doorashooyinkaasi hase yeeshee mudanayaashii baarlamaanka ee ku guulaystay doorashooyinkaasi ee ka tirsanaa axsaabtii mucaaradku ah dhammaantood waxa markii dambe ay isku shubeen amaba ay ku biireen xisbigii talada haya ee israa'el marka laga reebo cabdirasaaq xaaj xuseen waxaa taasu markaasi ay u muuqatay in jamhuuriyaddii soomaalidu markii ugu horraysay ay yeelatay xisbi keliya hase yeeshee dowladdaasi muddo dheer ma jirin madaxweynihii dowladdaasi allah u naxariistay cabdirashiid cali sharmaarke ayaa bishii oktoobar 15keedii sannadkii kii lagu dilay magaalada laascaanood isagoo markaasi booqanayay gobollo waqooyiga ku yaala oo abaari ay ka taagnayd madaxweynaha waxaa dilay nin ka mid ahaa askartii booliiska ee ilaalinaysay ra-iisul wasaarihii dalka maxamed xaaji ibraahim cigaal markii madaxweynaha la dilay waddanka dabadda ayuu kaga maqnaa waxa uu joogay dalka maraykanka oo uu kaga qaybgelayey kulankii golaha guud ee qaramada midoobay ee sannadkaasi kulankaasi mister maxamed xaaji ibraahim cigaal waxa uu ka hadlay bishii oktoobar 7deedii sannadkii kii oo 2 toddobaadun ay ka horraysay wakhtigii talada dalka ciidamadu ay la wareegeen hadalkii maalintaasi master cigaal uu ka jeediyey qaramada midoobay waxaa ka mid ahaa waxyaabihii uu u doodayey xuquuqda falastiiniyiinta iyo in dalweynaha shiinaha loo oggolaado qaramada midoobay waddankaasoo sida aad imika ka warqabtaan ka mid a waddammada awoodda fiidtooda ah ee diidmada qayaxan la yidhaahdo kulle qaramada midoobay oo xubinna ka ah golaha ammaanka bal qadar aannu idinka maqashiinna hadalkiisii oo af ingiriisiya to respect our authority. When we exclude that state from participation in our decision-making machinery. In addition, we cannot expect the authority of the United Nations to carry full weight if the principle... waxa uu yidhi maxamed xaaji ibraahim cigaal suurtagal ma aha in dal aynu ka doonno inuu xishmeeyo awoodda qaramada midoobay iyadoo dalkaasi aynu iska hortaagnay inuu qayb ka ahaado qaabka aynu go'aammada ku gaadhno waxaa taasi soo raacda buu yidhi inaan la filan in awoodda jimciyadda quruumaha ka dhaxaysa ay miisaan yeelato haddii mabda'a ah in adduunyadu ay wax wadaagto indhaha laga qarsado waxa igu filan buu yidhi inaan idhaahdo in aniga iyo wafdigayguba aannu taageeri doonno sidii aannu horeba had iyo jeer u yeeli jiray wixii go'aana ee u suuro gelinaya jamhuuriyadda dadka ee shiinuhu in kaalinta xaqa ay ugu leeyihiin ay ka galaan qaramada midoobay haddii ay ahaan lahayd golahan loo dhan yahay ka ammaanka iyo hay-adaha kaleba haddaba maxamed xaaji ibraahim cigaal markii lagu wargeliyey in madaxweynihii dalka la dilay ayuu si degdeg ah ugu soo laabtay dalka si ugu howlgalo sidii madaxweyne cusub loo dooran lahaa oo bedela allaha u naxariistay cabdirashiid cali sharmaarke maxamed xaaji ibraahim cigaal iyo intii taageersanaydba waxay u ololeeyeen in jagada madaxweynimada loo doorto allaha u naxariistee xaaji muuse boqor arrintaasi markii ololaheedu muddo uu socday waxaa kulankii ugu dambeeyey la isku afkartay in xaaji muuse boqor loo sharxo jagada madaxweynenimada habeennimadii oktoobar marka ahayd 20 hase yeeshee laguma simin in taladaasu ay meel marto
gododada dhulkeennu habeenkay gilgilatee guddidii heshiise golatoradee sare taladay ku gooyeen ama geeri aakhiro ama guush nololeed taladay ku gooyeen ama geeri aakhiro ama guush nololeed wixii u geeyey gabadhyay balii sheeg gabadhyay balii sheeg wixii u geeyey gabadhyay balii sheeg gabadhyay balii sheeg habeennimadii 21 Oktoobar sannadkii 1969 ayaa ciidamadu ay la wareegeen taladii dalka Soomaaliya. askarta haddaba talada la wareegtay ee golihii sare ee kacaanka waxaa ka mid ahaa Cismaan Jeelle. Cismaan waxa uu imika joogaa waddanka boqortooyada Sacuudi Arabiya. aadan nuux dhuule ayaa waxa uu weydiiyey waxa berigaasi ku kalifay in dawladdii rayidka ahayd ee Soomaaliya ee la soo doortay ay afgambiyaan iyo muddada ay wadeen bal haddaynay tallaabadaasi qaadaan. buuxu waa iska jiray ilaa intii uu dadweynuhu bilaabay inuu ka cawdo dhaqan siyaasadeedkii hogaamadii rayidka ahaa ku kala dambeeyey maamulka dalka ilaa iyo markii la qaatay xorriyadda iyagoo u arkaya dadweynuhu inay wada daba mareen ujeedooyinkii gobonnimada loo dhaliyey marka iyadoo arrintu sidaa ahayd ayaa haddana kalsooni darradii waxa ay sii fogaatay kadib markii dalka uu ka dhacay bishii Maars 1969 doorasho sidii loo maamulay ay reebtay urkutaallo weyn oo ummadda ku qancisay inay jirin haba yaraatee wax rajo ah oo laga sugi karayo maamulada. haddaba ciidamadu ayagoo qayb ka ahaa shacbiga lana wadaagay walaacaas guud waxay ahaayeen kuwa arrimuhu sida ay u socdaan indhaha ku haya dareenkoodani waxaa kusii weynaaday inuu dalku halis ku jiro oo u baahan yahay in laga badbaadiyo. arrintu halkaas markii ay maraysay ayaa waxaa la dilay madaxweynihii dalka ee waqtigaas Dr. Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayadoo loo aaneeyey dilkiisaas arrimo la xiriiray sidii loo maamulay doorashadii dalka ka dhacday sanadkaas isaga ah. marka sidaan wada xusuusano durbadiiba xubnihii baarlamaanka ugu jiray xisbiga leegada oo isagu xukunka hayay iyo golihiisii dhexe ayaa ku sheegeen xarunta xisbiga ee Muqdisho si la isula meel dhigo cidii bedeli lahayd madaxweynahaas la dilay. arrinta ayada ah oo afgaran waa uu ka dhacay dagaal afeed xoog lehna uu dhex maray raggii taasina waxay soo dedejisay dhashada kacaanka si loo badbaadiyo qorannimada iyo dawladnimada iyo iyaga u dhoodana si loo kala hago. wakhtigaa ay baarlamaanku shirayeen ee laga hadlayay sidii dawlad loo dhisi lahaa idinkoo hindisihiinu miyuu ka horreeyey mise uu ka dambeeyey? maya uu ka horreeyo qorshe ka horreeya waa jiraa de maxaa weeye niyad xumada dadweynuhu mauna bilaaban waktigaa ay shirayeen iyagu ee wuxuu bilowday doorashadii ayuu la bilowday oo doorashada ka hor ayaa waxaa jirtay saluug fara badan oo loo qabay maamulada. marka fikraddu way taagneed laakiin waxyaabahan dambe way soo dedejiyeen. intee in leeg baa markaa idinku muddada awoodeen hawsha ama marka taladii ugu horreysay ay isugu timaadeen inaad talada la wareegtaan
intee in leeg bay ka horraysay xilliga doorashada waxaan oran karayaa ilaa 6 bilood meelaha qiyaasta. waata cismaan waxaad ka warrantay hadda markaa isugu timaadeen kulankiinnii ugu horreeyey saraakiishiinnii ciidamadu maxaa waxyaabihii ugu horreeyey markaa aa ku taliseen matalan aa istidhaahdeen tallaabooyinka caynkaasa qaada sida la ogyahay haddii nidaam cusub uu yimaad ama nidaam militariga uu la wareego xukun markaa jiray oo dastuur ku dhisnaa de waajibka ugu horreeya waxa weeye horta bal dastuurka in la joojiyo maxaa yeele dastuurku lama saan qaadi karayo kacaan iyo military meel qabsaday marka durbaba horta waxaan laalnay dastuurkii ayaanu joojinay ku dhaqankiisa waxa kale oo aan ku dadaalnay bal inaan mataqaana aan maamulkii una hakanin oo sidii ay u socdaan hay-adihii dawladdu waxaan u yeeranay nimankii agaasimeyaalka guud ahaa ama maareeyayaalka ama shirkadaha madaxda u ahaa waxaanan siinay mandate ama awood ay kusii maamulaan mar haddii wasiir korka maamulaya una jirin intii wasaarad laga dhisayo marka nabadgelinta kacaanka iyo dhidibow aasidda nidaamkaa cusub oo dhashay ayaa wixii aan ku dhaqaaqnay ugu horreeyey waxaad ka warrantaa cismaan maadaama aad sidaad ii sheegtay aad dastuurkii laasheen baarlamaankiina aad kala dirteen doorashadii ka horraysana aad dhaliilayseen oo lahayd sida u dhacday ma wanaagsanayn idinka lafahantiina wakhtigii aad talada la wareegayseen ma idiin muuqatay doorashadii ceebahay doontaba ha lahaatee haddana dadku inay xor u haayeen iyagu cidday doonayaan inay doortaan laakiin idinku aad taa ka qaadeen markaa ma idiin muuqatay nooma muuqan maxaa yeele hadday noo muuqato dee mada samayneenba afgembiga waxaa noo muuqatay annagu dee xoog baan ku wala wareegnay meeshii laakiin dee in nidaamyadii markaa jiray dadka soo dhici jireen maanay ahayn mataqaanaa waxa la yidhaha qofku xorriyadiisa qofku kusoo dooranayay magac ahaan way ahayd waxa weeye waxyaabahan la yidhaha waad ogsan tahay adduunka waad la socotaa waxaan hadda ay yidhaahdeen dimuqrasiyada waxay ku timaad tartan xalaal ah oo caddaan ah oo la yaqaan oo qofku wuxuu sheegaya iyo meeshuu ka yimid iyo xataa meeshii uu kambaynka uu gelayay ama tartanka dacaayadii uu samaynaya lacagtii meeshuu ka keenay marka waxa weeye adduunka ama waa in wixii sidii dadkii samaystay oo reer galbeedku ay u samaysteen loogu dhaqmaa ama de waa inaan laga been sheegin marka annagu been ma aanaan sheegin waanan u bareerinay inaan dadka usoo dhicino ayaana annaga kolley ujeedadeenu ay ahayd laakiin dee iyagu mataqaanaa awooddii iyo dhaqaalihii dawladda ayaa lagu geli jiray anigu nin ahaan waxaan xoogga dalka soomaaliyada wakiil uga ahaa xafiiskii hogaaminta doorashadii 69 say wax u dhacayeen iyo ciidamadana la weydiinaya meesha loo diray iyo cabashooyinka soo dhacayo intoo idil badan akrinayo goobjoognimaan u ahaa taa waxaa dheer de dadka nafsadooda way caba jireen maansooyinkooda laga garanayaa heesahooda laga garanayaa gabayadii baa laga garanayaa waxa taas gabagabadii wada caddaynayo markii annagu aan ade caddaynay in ciidamadu la wareegeen meesha ummadda soomaali meel kasoo joogtay hambalyay noo soo wada dirtay waa soo banbaxeen waxa inaga hor yimid oo maxaad samayseen la yidhaha baga mooye maanaan arag sidii haddaba loo soo dhoweeyey afgembigii ciidamadu wuxuu ahaa mid xoog leh sida heesaha gabayada iyo shucuurta dadweynuhuba ay muujisay hase yeeshee dowladihii ka horreeyay ee rayidkahaa raggii iyagu hogaaminayay sidee ayay u arkeen soo dhowayntaasi ciidamada dadweynuhu ay soo dhoweeyaan cabdirasaaq xaaji xuseen oo ra-iisul wasaare ka aan jiray jamhuuriyaddii soomaalida ayaanu arrintaasi wax ka weydiinay bal sida uu arko soo dhowaynta xoogga leh ee la siiyey ciidamada wakhtigaasi waxaanu yidhi waxay u soo dhoweeyeen muxuu ahaa
mid horta meel kastoo inqilaab ka dhaco waxaad arkaysaa wixii cusub baa dadka u sacbinayaan waxaana ku wacan waxa weeye waxa cusub baa intii awal wixii horoo jiray aan wax ku haysanin oo ayagu ay yihiin aqlabiyadii waxay rajaynayaan nidaamka cusub baa yaa wixii hore wax ka fiican idiin keenaya oo iyagu weeye riyadaas iyagu isu sheegayaan marka Soomaaliya kuwaas oo kale ka mid ahayd muxuu ahaa markii military qabsaday oo khudbad la akhriyay oo la yiri xukunkii hore oo idin laqay oo tuugada ahaa wax walba dhameeyay annaga ka fiican wax ka horeeyo military hadda ka hor leeyahay wara walbaanu idin ogeeyna ma jirinin waxa hore kale ay ballan qaadeen kanaanu sameynayna kaasaan sameynayna cadaalan keenayna sidii ana wal cadaalad jirin barwaaqaanu meel walba ka dhigayna iyo cagaar dadweynihii way u sacbinayeen marka la yaab ma lahayn maxaa jira meel kasta oo kale Asia iyo Africa iyo Middle East iyo meel alla meesha inqilaab ka dhacay oo dhan hadaan la socotay saasa ka dhacaysay marka there is nothing muxuu ahaa oo la filan waayo dadweynuhu inay u sacbiyaan wixii isbedelay ma jirin sidii uu haddaba sheegay Cismaan Maxamed Jeelle markii ciidamadu ay la wareegeen taladii dalka waxay u yeedheen rag tiradoodu ay ahayd ilaa kontomeeye oo ahaa mutacallimiintii markaasi la tuhmayay ama jagooyinka sare ka hayay xagga maamulka raggaasi waxaa ka mid ahaa Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo waqtigaasi ahaa agaasimaha guud ee wasaaradii qorshaynta markii kacaanku uu qabsadayna waxa uu noqday wasiirkii ugu horeeyay qorshaynta ee dalka Soomaaliya imikana waxa weeye wasiirka qorshaynta ee dalka la magac baxay Jamhuuriyadda Somaliland haddaba aadan nuux ayaa Siilaanyo oo imika jooga magaalada London waxa uu weydiiyey u yeedhidii ciidamada qabsaday talada dalku ay u yeedheen isaga iyo raggii kaleba runtii waxa weeye markii ay ciidamadu meesha qabsadeen waxa marka hore waxay isla galeen xeradii la oran jiray Afisyoon oo ka mid ah xerooyinka ciidamada iyana may kala soocnayn markaa way isku wada dhex jireen ciidamada military saraakiil badan oo ka mid ah iyo kuwa police-ka intuba way ku jireen anagu markaa ciidamada qabsaday mooyaane maan ogeyn exactly cidda qabsatay dadka qabsaday kuwa ay yihiin isla markaa waxaa la soo ururshay dad badan oo rayid ah oo mutacallimiin iyo waxgarad loo arkayay siyaasadana aan toos ugu jirin oo la isugu keen qolka shirarka taliska booliiska ragga inta ay qolada ciidamadu shirarka aan kala go'a lahayn ay u fadhiyeen oo marka dambe aan ogaanayno inay iskala hufayeen oo weli aan raggii noqonayay xubnaha golaha sare kacaanka markii dambe la bixi doona aan weli ayn iska xulinay intaa ka badnaayeen annagana ragga aan sheegayaan ka midka ahaa la yidhi ka soo baltaliya siday idinla tahay in dalka loo maamulo waxaan ka xusuusanahay talooyinkaygii ugu waaweynaa waxaa ka mid ahaa in ragga ciidamada qabsaday wax kastaba ha ahaadeene ayan maamulka dawladda iyagu ayan qaban oo askaraayaan qaban ay ku ekaadaan inay guddi samaystaan dusha ka ilaaliya maamul dawladeed oo rayid ah oo markii doono la bedeli karo ama cid laga bedeli karo iyaguna een hawsha toos faraha ula gelin kaasi qodob aad u muhiim buu ahaa qodobka kale wuxuu ahaa in labada hay-adood midna ay toos maamulka dawladda tahay midna golaha sare ee ciidamada ka kooban uu yahay inaan marnaba inaan qof wada xukumin ee ay laba hay-adood oo kala madax bannaan oo mid walba shaqadeeda ay tahay talooyinkeygii bay ka mid ahayd runtii markii ugu horreysay beryaha ugu horreysay waliba intaan la faaniyo ah intii bilowgii qodob way ka qaateen oo may soo gelin dawladdii ugu horreeyey la sameeyey may soo gelin ciidamadii meesha qabsaday waxa ahaa difaaca ayuunbaa ka ahaa muxuu ahay ciidamada inta kale civil bay ahayd waana beryihii aada moodasay in wax dhaqdhaqaaq badan iyo hawlo badan ay socdeen qodobkasi aan la qaadan oo markii dambe dee waxaan dunida isku dhabqiyey ee kharibay uu ahaa oo aan taladii raggu berigaa soo jeeshay aan la yeelintii ahayd inaan qofu madaxooda noqon maxamed siyaad baa labadiiba madax u noqday markuu muddo ka bacdi joogayna maxaa laga kala shirayaa bal labadiiba dhexdaa la isu dhigay marka way marka arrintu runtii ay dhabaqday laakiin taa aad iyo aad baan u xusuustaa ciidamadii haddaba talada qabsaday oo aan intii hore la garanaynin kuwa yihiin
waxa ay kala miirmeen kowdii bishii noofembar sanadkii 1969 oo la soo saaray xubnihii golihii sare ee kacaanka oo tiradoodu ahayd 25 xubnood. su-aasha haddaba la isweydiin karaa waxa ay tahay dhegaystayaal, ciidamada talada qabsaday ma ku tala jireen in talada rayidka ay ku soo celiyaan? cabdilaahi xaaji ayaa maxamed siyaad barre 1972 waxa uu weydiiyey goorta ciidamadu xoryahooda ay ku laabanayaan. waxa uu ku jawaabay, wallahi jeel hadalkaas waa balbalaaraya wuxuu u balbalaaraya sad hadda adigu u fakarayso ama hadda meesha ka timid looga fakaro iyo sida halka aan uga fakarayno waxa suurtooda inay kala duwan yihiin. marka haddaan ku jawaabo saan halka uga fakarayno baan kugu jawaabaya. waxaanu leenahay xukunku waa inuu ku jiraa shaqaalaha iyo beeralayda iyo dadka shicbi weynaha ah iyo askarta inay dad isku dada yihiin laba midab ayaan kala lahayn bay annaga nalata. hase yeeshee meesha Soomaalidu amay waajib ay u tahay inay ka fiirsataa amaan annaguba hadda aan qabno in laga fiirsadaa inay tahay war ninka aynu hawsha u dhiibanay ma nin ikhlaasaha oo si fiican noogu shaqeynayo caadilnimo noogu shaqeynaya dhibkanagu is dhibkiisa yahay dantanada annagoon ogeyn nooga shaqeynaya bas waa nin khatalaya oo xoolaha naga xadahaya oo beer nagu dul samaysanaya oo daar nagu dul dhisanaya oo qaraabo kiil samaynayo dad xigaala ah meel ka buuxsanaya bas waa nin daacad ah xuquuqda jecel iyo hor u kaca ummadda kulligeedoo idil. annaga halkaas bay saas bay nooga muuqataa. marka xukumkii anagu waxaan isleenahay hadda yaa haya yani matal xukum askariya baatiri anigu mooyahay dee anigu waagi hore askari ahaan jirta haddaan laygu tilmaamaynin intiisi kale yaa haya soo dadka dhallinyarada mutacalimiinta oo raaciyada oo dalka joogay soo ma hayaanin. haddaba se waxaan leeyahay midaad ujeedo waa garanaya election goormaad samaynaysaan ayaad ileedahay taasaad u socotaan xaggiina saas baa looga fakaraya. waxaanu samayn doonaa markii dadku uu haddaba heer fiican buu ismarayaaye ay maskaxdiisu ay sida aan u sheegayay ay u noqoto mid Soomaali ikhlaasa. marka talada ay goosanayaan iyo ninkay xulanayaan labadaba ay yaqaaniin mid wax ugu yaala oo iyaga maslaxadooda hogaaminaya inuu yahay mid maslaxadooda ka horjeeda inuusan noqonin. barnaamijkii toddobaadkanina dhegaystayaal intaasi ayuu ku dhan yahay. waa barnaamijkii sagaalaad ee barnaamijyadii taxanaha ahaa ee aanu kaga hadlaynay taariikhda Soomaalida. aan ku bilaabay haddaba golihii sare ee kacaanku markii talada waddanka ay qabsadeen waxaa si firfircoon ay u bilaabeen wax ka qabadkii xagga horumarinta dhaqaalaha iyo adeega bulshada. waxay ku bilaabeen hase yeeshee talooyinkii xagga degmooyinka iyo gobollada inay kala wareegaan saraakiishii hayse oo ay ku wareejiyaan saraakiil da'doodu yar tahay oo ciidamada ka tirsan. bishii Oktoobar sanadkii 1970 ayaa golihii sare ee kacaanku ku dhawaaqay in dalku uu qaatay hanti wadaaga cilmiga ku dhisan. waxa weliba taa lagu lamaanayey iyada oo si xoog leh loo baareeyay qabyaaladii. dowladii militariga ahayd markii ay qaadatay hanti wadaaga cilmiga ku dhisan si ay u muujiso inay ka soo horjeedo qabyaalada waxay ku dhaqaaqday in iyadu mas'uul ay ka noqoto kharashka ku baxaya dadka ku dhinta magaalooyinka ee markaasi magaalada aanay u joogin cid asta. waxa iyadana la dhiirigeliyey in aan mag la kala qaadanin iyada oo la soo saaray sharci markaasi qofkii qof dila loo dilayo. xilligaasi waxa la gubay wax loo ekaysiiyey amaba laga dhigay inay yihiin qabyaaladii musuqmaasuqii iyo eexashadii oo la aasay markii dambe. ereyga inaadeerna waxa lagu bedelay jaalle. haddaba dhegaystayaal cismaan maxamed jeelle oo ka mid ahaa golihii sare ee kacaanka kana mid ahaa raggii ugu dhallinta yaraa wakhtigaasi ayaa waxaanu weydiinay markii la qaatay hanti wadaagga cilmiga ku dhisan wixii ku kalifay. isaad ogsan tahay horta rag hadduu meel isugu yimaad oo xukun wadaag yahay oo xukunku u dhexeeyo dee qasab maa horta dhammaan in la wada aaminsan yahay. fikrad kastoo la keeno de kulley ma aha 100% in la wada aaminsan yahay. waxaa dhici karta daan markay qaban inay jireen wax nagu kalifay anigu nin ahaan runtii ma arkaynin horanu ma arkaynin haddana mataqaanaa ku oran maayo waa jireen laakiin kulley sidaa ayaa mataqaanaa loo batay sidaa ayaanu ku yimid de kulley sidaa ayaanu ku qaadanay. waxaa jira adduunka laba system waktigaa waad ogsan tahay. waxaan la yidhaha systemkan capitalismka ah iyo socialism. socialismka dalal badan baa qaatay oo carabta inteeda badan way qaadan jireen intaan boqorada ka ahayn. laakiin annagu midaan ku gafno waxay ahayd weliba waan sii korino waxaan idhi hanti wadaaga cilmiga ku dhisan.
taasoo aanan ahayn mid mataqaan munaasab ahayd xataa kuwii mataqaanaa macallimiinta u ahaa oo ruushkii anigu hadde xiriir ma lahayn oo dadka afyaqaan ma aanan ahayn laakiin kolley qaar naga mida ayay aada mataqaana adigu isu yaqiineen waxa ay noo sheegeen inay kala taliyeen kacaanka oo ay yidhaahdeen haqaadanaha waktigiisi ma joogtiin dadkiinuna ma noqon karayo dhaqaalihiinuna uma habaysno marka adigu dooda way iska jireen de haddii sidaa ay leeyihin kuwii macallimiinta waa maxaad inoogu wadaan anaga wax nagu kalifaya ma jiraan iyo adiguna hala qaato iyo go-aankuna kadib wuxuu ku dhamaaday in la qaato marka aniga hadaad hayaani weydiiso wax nagu kalifaya inay jiraan ma qabo ma ruushkaa lafahantiisu idin laha ha qaadanina sida aad sheegtay saaxiibadaa siday sheegeen waddankiinu diyaaruma he sidaasaa la igu yidhi waa allah unaxariista maxamed siyaad nafsadiisa ayaan dhowr jeer ka maqlay cismaan maxamed jeelle waxa aanu weydiinay oo kale dadkii soomaaliyeed ee ay ugu dhawaaqeen golihii sare ee kacaanku qaadashada hanti wadaaggu sida ay u arkeen gudaha soomaaliya haddaan horta ka bilaabo dee dadkeenna uma habaysnayn ama waxay u arkayeen hanti wadaagga waxay u arkayeen inay diin la-aan tahay waanabaad mooday fikradahooda kulley un inay sidaa u dhaweed mar haddii anagu aan sii durugnay aan idhi mataqaanaa waa hanti wadaagga cilmiga ku dhisan marka ma una fiicnayn gudaha jawaabtii dadweynuhu ama aada ugumayna faraxsanayn waana dareemi karnay runtii mataqaana kolley un raggu waa wada dareemi kareen mid un haddaan la isdiidsiinayn maxaa yeele ummadeena waa wada muslim nin kasoo da hadda anan dhaqamadeeda markaad eegto aada iyo aad ula yaabaysid laakiin haddana iyad ahaan waa dad muslimnimadu ay tahay waxba waran kartaa waa qabiilkoodaba inaanu qaadano waxyaaba kasoo horjeedo diintiis ay aaminsanaayeen wax aada iyo aada u qallafsan bay ahayd waana runtii kolley muuqatay markiiba haddaba haddii dhegaystayaal dadkii soomaaliyeed ee loogu dhawaaqay hanti wadaagga cilmiga ku dhisan ay sidaas iyagu u arkeen su-aasha kale la isweydiin karaa waxa ay tahay waddamadii dibadda ee muslimiinta iyaguna sidee ayay ugu muuqatay soomaalida hanti wadaagga cilmiga ku dhisan qaadatay aan mar kale idinku celiyo cusmaan maxamed jeelle oo isagu ahaa ninkii loo xil saaray inuu soo qanciyo waddamada carabta qaarkood waxaanu yidhi haddii dawladaha dibadda ama islaamka la yidhaah horta waxaana ninkii golaha sare ay u direen dawladaha carabta ayaga ayaa noo ood dhow dawladaha islaamka ah bal si uun loo qaboojiyo waxyaabihii ka yimid oo kasoo dhacay marka waxaan kugu sheegayaa run ahaan markaan waayo aragnimo kaaga warramo iyo goobjoog ahaan ma aanu fiicnayn marka laga reebo dalal ayaga u dhoodu hanti wadaagga horey u qaatay laakiin anaan ku talax tegayn hanti wadaag bas uun madaxweyne xaafid asad madaxweynaha suuriya oo hore aan isu naqayn markii aan u tegay oo u yidhi war asmaan miyaad waalateen ma hanti wadaaggii annagu aan la liidanay dadkeena saan uga dhaadhicin ayaad sii kordhisooy haddana mid cilmi kasii dhigteen marka dadkii noogu horrey waayo aragnimo ahaan oo dalal islaama xukumayey oo madax ahaa sidaa ayay intii nasiixa ay noola yaabanaayeen kaasi waxa uu ahaa cismaan maxamed jeelle markii haddaba hanti wadaagga la qaatay ayaa isla markiiba waxaa la bilaabay in la koolkooliyo maxamed siyaad barre amaba magaciisa la dhiso sidii ka dhacaysay waddamadii kale ee hanti wadaagga ahaa sawirradiisii ayaa meel walba lagu wareejiyey isaga iyo nimankii aabbayaasha u ahaa mabda'aasi ee marx iyo lenan waxaana la tiriyey gabayo iyo heeso badan oo maxamed siyaad barre lagu ammaanayo
dhegaystayaal haddaba maxamed siyaad barre ammaantiisu ma koobnayn waxaa loo bixiyey magacyo badan oo ay ka mid ahaayeen aabbihii ummadda aabbihii garashada iyo guulwada siyaadba askartii haddaba talada qabsatay waxay ururiyeen carruurtii agoontahayd iyo kuwii iyaguna iska dabadyaalka ee aan haysanin cid taakulaysa waxaana la geeyey xeryo waxbarasho iyo taabaro lagu siiyo oo ay ku noolaadaan xagaagii sanadkii 1972kiina waxaa la abuuray ciidamadii la odhan jiray guulwadayaasha oo badankoodu ahayn dadaan wax shaqo ahaynin oo suuqa laga soo ururiyey markii haddaba la qaatay hanti wadaagga cilmiga ku dhisan maamulkii dhaqaalaha ee dalka dowladda ayuu gacanta u galay dowladdii milatariga ama kacaanka ahaydna waxa ay qaramaysay shirkadihii gaar ahaan loo lahaa iyo wax soo saarkii dhinaca beeraha waraysi uu BBC da siiyey maxamed siyaad barre wakhtiyadaasi oo lagu weydiiyey waxa dowladdiisu ay dadka baac mushtariga ugala wareegtay shirkadaha maxamed siyaad barre waxa uu ku jawaabay jaalle gabar baa walaalkeed naaska qabtay waxay tidhi naaska walaalkay qabtay hadba waa saan ka dhigta waxaan haatan annagu leenahay markaanu taa yeelaynay ummadda soomaalida oo badan maslaxadeedaan ula soconnay marka haddee ninkii beecushariga ahaa waa hadba suu ka dhigta haddii uu taas u gartana waa nin fiican haddii uu keligay aan noolaada inta kale ha dhimato isu gartana isagay jirtaa laakiin annagu danu nagama hayso waxsaan ku leeyahay ninkii haddii xoolaha lahaana horey baanu la hadallo waxaanu nidhi u leexo xagga warshadaha oo annaguna aan kaala shaqayno oo dowladda nafteeda ha kaala qayb gasho oo sheer ha yeelato ama qaar ha yeelato kuwii shaqaalaha ahaana dowladda tanba shaqaalaha leh dowladda nafteedaba iyagaa leh shaqaalaha iskale iyo dhallinyarada yaa iskale dadka naga waaweynu bacdamaa ay yihiin dadkii carruurtaas aan sheegahaya dhalay danba annagana waajibkanaba wey inaan carruurtii korino oo weynayno oo iyaga mas-uulkii u gudbinno anaan annagu meeshii haysaninoo keligana anaan xukumin barnaamijkii qaramaynta ahaa ee ay ku dhaqaaqday xukuumaddii milatariga ahayd ee maxamed siyaad barre waxaa fikradaheeda waxqabad ay ku fulin jirtay barnaamijkii la odhan jiray iskaa wuxu qabso hase ahaatee amuurta ugu qiimaha badnayd ee ciidamadii talada dalka qabsaday ay fuliyeen oo laga yaabo inuu ruux kastaana ka marag furo waxay ahayd qoritaankii farta soomaaliga oo la qaatay xuruufta laatiinka sannadkii 1972kii maxamed siyaad barre oo ka hadlayey in af soomaaliga la guddoonsaday in la qoro kahor intii aan la hirgelinin waxa uu yidhi gunnimo cilmiya ama tacliina wax afka hooye aan ahayn oo naga bixin karaa ma jiraan marka taas markaan garanayna cilmigii kale waa badan yahay waana ballaaran yahay wixii lagu baran karaa waa afka hooyo mid kale laguma baran karo taasaa kaaga bixin karta jahaalada amaba addoonnimada cilmiga kaa saari karta marka saa darteed afka hooyo ayaanu dhigaynaa waqtigii ku oran maayo barnaan dhigayna iyo sadan baan dhigaynaa kuma lihi waxaanan ku lahayn waa wax ka dhaxeeya guddiyaalka ama dawladda ka dhaxeeya inay u fariistaan iyagu maalin hible yidhaahdaan oo gooyaan me anigu kuma aan maalin hible ku dhihi maayo laakiin waanu dhigaynaa kulligeennana walow anaan goynin maalin fulaan waa isku ogolnahay wax kale oo soomaaliya ay uga bixi karto aqoon darrada ama gumaysiga cilmiga ay uga bixi kartoon afka hooyaan ma jiro marka waa dhigayna kaasi waxaa maxamed siyaad barre oo ka hadlayay qoritaanka afka soomaaliga in ay ku talagaleen ay sameeyaan haddaba golihii sare ee kacaanku waxa uu ku dhaqaaqay inuu fuliyo sidii af soomaaliga loo qori lahaa waxaa markaasi la sameeyey guddidii ugu horraysay waxaa ka mid ahaa guddigaasi loo xilsaaray arrintaasi oo tiradooda ahayd 21 cabdi daahir afay oo imika degan waddanka australia yuusuf garaad oo waraystay mar sanadkii aynu ka soo gudubnay dhammaadkiisii booqasho uu ku yimi magaalada london ayaa waxa uu weydiiyey bal inuu ka warramo si kooban taariikhda af soomaaliga ciddii isku dayday in ay qoraan qaar ka mid ah waxaanu ku jawaabay yuusufow anigu intaan ka ogahay ama raggii aanu soo wada shaqaynay far soomaalidu muddo dheer bay soo qaadatay in la qoro rag badan baa isku dayey ilaahay naxariistii ha siiyo raallina ha ka ahaado sheekh yuusuf kowneyn ayaa ugu horreeyey sida aan taariikhda ku maqlay ama ka sheeko qabo in af soomaali waxaa la yidhaaho bal horta ama uu qoraal galo ama cod yeesho ama wax lagu qabto waa ninka soo saaray alif la kordhabay alif la hoos dhabay alif laa goday wuxuu isku dayay dadkii soomaalida ahaa si uu qur-aankii u xafadsiiyo oo ay higaadii u dhigaan u yeersadaan
oo iyagu gacantooda qoraalkii marka loo yeeriyo qur-aanka ay iyagu gacantooda ku dhigaan. waxaa ku xigay sida aan taariikhda ku hayo cismaan yuusuf keenadiid nin la yidhaaho reer hobyo ah ayaa isna fartan cismaaniyada la yidhaahdo soo saaray. waa far soomaali xuruufteedu tahay oo shaqaladeedii iyo shibanayaasheediiba soomaali yihiin. fartaasuu isna nin gabayaabuu ahaa. waxaa ku kallifay isagana in uu gabayadiisii u samaysto wax uu meeluu ku xafito iyo qoraal uu ku xafido. waxaa ku xigay oo raggii iyaguna qaybta weyn ka qaatay naxariista allaha siiye muuse galaal ninka la yidhaahdo iyo brofesor andrewiski ninkii ingiriiska ahaaye isna ahaa yaa kontomaadkii iyo ka hor baan u malaynaya inay ahayd iyo iyaguna far latiina. muuse wuxuuba igu yidhi marka hore carabi baan isku dayey inaan wax ku sameeyo, se yeeshee markii isukay qabsan weyday ayaan u leexday xaggan fartan scriptiga ama xuruuftan ta'da ingiriisiga inaan wax ku sameeyo. aniga ninkaasaa iska kaashanay inaanu xuruuf latiina aanu wax ku samayno. waxaa iyaguna kusoo xigay halkaas ninka layaha shiro jaamac. isna wuxuu ahaa nin fartaa latiinka ah wax ku qorqora oo raggii isna ku xigay buu ahaa. waxaa kaloo isna ku xigay brofesor ibraahim xaashi naxariista allaha siiye ninkaasoo isaguna fartan carabiga ah oo wax ku qori jiray oo iqtiraax ah macnaha ra'yigeeda soo jeediyey in fartan carabiga la qaato. waa fartii qur-aanka, waa fartii diinta ku soconaysay. alifkeena iyo afkeenana halka aan ku dhiga buu doodiisu isagana ahayd. waxaa jiray nin la yidhaaho cabdullaahi insaaniye oo isna farta latiinka ah isna soo jeediya iqtiraaxeeda in wax lagu qoro. waxaa isna jiray xuseen sheekh kadare nin la yidhaaho isna oo far alifba'deedu soomaali taho isagu uu iqtiraaxeeda iyo ra'yigeeda lahaa ayaa iyadana jiray. 8 farood ayaa tartankii markii guddiga laysu keenay farahay u ahaa saldhigga waxyaalihii ay ka shaqaynayeen. farihii meesha lasoo dhigay saldhigga ahaaye laga doodaya tee la qaataa. 21 nin yaa marka hore yaa magacooda lasoo saaray. goorma bishii koowaad kowdeedii 1971 bay ahayd. waqtigaasna la magacaabay. cabdi haddaan meesha ka dhex galo guddiga soomaaliga la sameeyey 71kii dabcan dhowr jeeroo dambe ayaa guddigii wax laga bedelay laakiin markaa u horreysay la magacaabay dadkii kugula jiray wax ma ka xasuutaa? haa rag badan baan ka xusuusnahay. horta ninka la yidhaaho doctor shariif saalax maxamed ninkaas wuxuu marka guddigana la magacaabay guddoomiyihii jaamacaddu ahaa. isagaana nalooga dhigay guddoomiye. halkaas raggii maalinkaas ayaantaa la magacaabay waxaa ka mid ahaa yaasiin cusmaan keenadiid, muuse galaal, anigana cabdi daahira, maxamed shirin ina shiragaab la yidhaaho, maxamed shirin la yidhaaho, axmed cali abokor, aw jaamac cumar ninka la yidhaahdo, cabdullaahi insaaniye, shiro jaamac, brofesor ibraahim xaashi, xirsi magan, xuseen sheekh kadare. 22 intoodii kale maskaxdeeda hadda way ka maqan tahay, qoraalkiina ima horyaallo. tallaabooyinkii golaha sare ee kacaanku ay ku dhaqaaqeen waxaa ka mid ahaa sidii ay u samaysan lahaayeen dad waxyaabaha ay wataan u hoggaansan. shaqaalihii sare ee dawladda iyo ardaydii jaamacadaha ka soo qalinjabisay iyo kuwii dugsiyada sare ka baxay ayaa iyagana lagu ururiyey xero milatarigu uu hore u lahaan jiray oo la yidhaa xalane, looguna magacdaray askari ku dhintay magaalada togwajaale dagaalkii ka dhacay sannadkii 1964 kaasoo dhex maray etoobiya iyo soomaaliya. askarigaasi xalane oo la dilay isaga oo badbaadinaya calanka soomaalida markii ciidamada etoobiya ay soo galeen magaalada togwajaale. ciidamadii NSS-ta ee sirdoonka gudaha ayaa iyagana la sameeyey oo ruux walba isha ku hayay. wixii dallacaad iyo casilaad ahna waxa ay ku fadhiyeen wixii wara ee ay hadba soo gudbiyaan. waxaa xoogaystay in ciddii wax ka sheegta dawladda milatariga ah iyo barnaamijkeeda lagu sifeeyo afmiishaar.
waxaana taasi ay dhalisay ciddii hadal cadiba in dalka ay dibadda uga baxdo oo shaqo ay ka raadsato taasoo iyaduna keentay in maskaxo aqoon badan lahaa oo dalka wax u tari lahaa ay waddanka dabaddiisa u baxeen hase yeeshee culayska dadku uu dareemay waxaa ka horreeyey in golihii sare ee kacaanka lafahaantoodii ay iskhaarajiyeen markii bishii julaay sannadkii 1972 laba jenaraal oo ka mid ahaa golaha sare ee kacaanka la dilay waxa ay ahaayeen jenaraal maxamed caynaashe oo madaxweyne ku-xigeen ahaa iyo jenaraal salaad gabayre oo dad badan oo golaha sare ee kacaanka ku dhowaa ay sheegeen inuu ahaa nin qayb weyn ku lahaa in milatarigu talada dalka uu la wareego waa qaybtii tobnaad ee barnaamijyadii taxanaha ahaa ee aanu kaga hadlaynay taariikhda Soomaalida aadan milatarigii haddaba talada la wareegay bishii Oktoobar sanadkii 1969 mucaaradadii ugu weyneyd ee xagga shacbiga ka timaada waxay ka dhalatay xeerkii qoyska oo golihii sare ee kacaanku ay soo saareen bilowgii sanadkii 1975 talaabadaasi waxa ay keentay in culimadii diintu ay ka hadlaan sida xeerkaasi qoysku uga soo horjeedo diinta islaamka oo ummadda Soomaalida 100% loo oran karo way aaminsan yihiin xeerka qoyska oo ka hadlayay sinaanta ragga iyo haweenka marka ay timaado xagga dhaxalka didmadii ay wadaadadu dideen waxa ay tilmaameen in xeerkaasi uu ka soo horjeedo aayadaha quraanka waxa kacaankii dalka haystay ay u dileen taas didmadii ay diideen 10 wadaad 23 kalena waxa lagu xukumay xabsi dheer inta aynan haddaba khudbadii dhibaatadaasi ay ka dhalatay ee ujeediyey maxamed siyaad barre aynaan gudagelin afgembigii uu hogaaminayey markii talada ay qabsadeen bishii Oktoobar sanadkii 1969 mowqifkii xagga diinta ma muujiyeen mise may muujin amaba halkay ka taagnaayeen maxay ahayd waxaanu qadar imika dhegaystayaal idinka maqashiin doonaa maxamed siyaad barre oo ka hadlayay arrimaha xagga diinta khudbadii ugu horeysay ee uu jeediyo markii talada ay la wareegeen waxa khudbadaasi uu jeediyey 23 bishii Oktoobar sanadkii 1969 waxaana guud ahaan uu kaga hadlayay ciidamada talada qabsaday waxa ay doonayaan inay sameeyaan iyadoona diintuna ay ka mid ahayd waxaanu doonaynaa inaanu marka ka dhigno dalkii dal sharci ku dhisan inaanu dadkii ka dhigno dad sharciga u hoggaansan oo cis iyo dhowrmo nin iyo nin ahaana ay ka dhaxayso hay-ad iyo hay-ad ahaana ay ka dhaxayso caamiyadana ay ictiqaadsan tahay inuu lagama maarmaan yahay waxaanu doonaynaa inaanu ku tillaabsanno laalooshka inaan baabi'inno waxaanu doonaynaa inaan ku tillaabsanno qarabakiilka inaan baabi'inno waxaanu doonaynaa inaan ku tillaabsanno qabiilkii xumaa inaanu baabi'inno oo laynaga soo galayay oo ajnabigu markay rabaan inayna haleeyaan ay ku tiirsan jireen oo sabab ka dhigan jireen adigu qabiilkeed tahay adigu xaggee ku dhalatay adigu muxuu ahaa kaafay tahay hebel ma waxbaa isu tihiin hebel waxbuu kaa sheegaa maxaa sababteed u tahay inuu idinka kormaru rabaa inuu idinka hoosmaru rabaa wixii ay tixi jireen nimankii gumaysayaalka ahaa oo haatanna masawirkooda beentu nala joogo maskaxdooda iyo caqligooduna meel kale uu ku dhisaasanya inaanu baabi'inno oo aanu marka tirtirno meeshii dadka ama aan isku kalsoonayn ama aan iimaan ka lahayn amaba adeegayaalka ajnabiga ah amaba ajnabiga laftiisu ay ka soo geli jireen inaanu awdno oo Soomaali weynna ay barbar ku raacdo kuwa waxaas miskiinka ah taabacsanna aanu geed cidlaa ku xirro dadkuna ay u muuqdaan kuna coodayno waxaanu doonaynaa dhaqaalaha dalka inuu hore u kaco in shacbiga Soomaaliyeed caafimaadkiisa iyo qoomiyadiisa inay hore u kacdo waxaanu doonaynaa inaanu dhalinno qoomiyadda la yidhaahdo Soomaali la yidhaahdo midnimo la yidhaahdo wax wada qabsi la yidhaahdo wada noolaan inay dhalato waxaanu doonaynaa inaanu ku beerno dadkanaga inay ceeb tahay xanta iyo afmiishaaraynta iyo beenta iyo sabidaadda iyo jaajuuska iyo waxa qashinka ah oo aakhire iyo adduunba ku foolsan waxaanu doonaynaa diinta islaamka oo aynu haysanno oo la haleeyey oo loo bandhigay nin kastaaba inuu ku xayaaro inaanu xoogga aanu haysanno ku gees istaagno oo diintu ay quwi noqoto bacdana ay tahay gundhigii shacbiga Soomaaliyeed ay tahay hadalkaasi waxa uu ahaa khudbaddii ugu horreysay ee uu jeediyo maxamed siyaad barre haddaba markii golihii sare kacaanku uu soo saaray xeerkii qoyska ee sababtiisa wadaadada lagu laayay bishii January ee sanadkii 1975 waxa maxamed siyaad barre uu jeediyey khudbad uu dadka ugu sheegayay golihii sare kacaanku go'aanka ay qaateen khudbadaasina waxay ahayd waxaan
rajaynayaa in maanta uu gaaray golaha sare kacaanka inuu idin sheego in gabadha iyo wiilka soomaalida isku xaq yihiin, in dhaxalka ay isaga xaq yihiin. waxaa jiri jirtay haddii nin dhinto oo gabar keliya ka tago haawey aan waxba ugu jirin xoolaheeda inay boobaan. haddii taasu dhacdo gabadha xoolihii aabeed inay korigeed leedahay ee wax kale ayan ka qaadaynin. waxaa jirtay in maxaa la odhan jiray rubuc walthuluth walkhaamis waljinni. ma jirto taasu. labada qof waa isku mid, waa isku xaq, waa siman yihiin. xuquuqda muxuu ahaa mujtamaca ama waalidkooda ay ka dhaxdaanna waa isugu mid wixii maanta ka dambeeya ummadda soomaalida ah, mana kala hoosayso. taasu isla markii waxay fariisinaysaa in muxuu ahaa labada qof oo ragga iyo haweenkaa ee isqabaa inay isku xaq yihiin, waajibkiina inuu u siman yahay, xaqiina inuu u siman yahay ayay caddaynaysaa. markaas bal hadda aynu taana ku qotomino hore u dhiga ummadda loo yaqaano haweenka adduunka, dad aynu inagu rukunkii ugu horreyn saas ku xabaalno. waxaan rajaynaynaa kuwa weli dambeeya oo maskaxdu ay ka hadlaysan tahay inayna soo raacaan oo dadka aadamiga xaqiisa inay simaaneen, rag iyo dumarba inay simaan baan ka rajaynayna. maxaa waxay addoonnimaa jirtay, addoonnimadii jirtay si loo baabaasho addoonnimada waa in la baabaasho habaydiin. haddaan addoonnimo jiri lahayn addoonnimo kama muuqateen, kitaabkeenna kama muuqateen. haddaan hore usoo kaco weliba haweenka iyo ragga sulus iyo rubuc maxaa keenay? waa furuda waxa keenay. gabdhaha markay dhashaan waa la xabaali jiray. wuxuu ninka badowga ahaa ee waaga xaabkaa jooga ku fakeri jiray muxuu ahaa intay xeeb kuu keenahayd ha dhimato, caqligooda iyo saasku ku socon jiray. diinta islaamku wuxuu ku dhisnaa inuu xoreeyo ummadda oo u xoreeyo tilaabo ama midkii xoraysi kara markaasba in tartiib loo xoreeyo. maalinba hayad la soo dejiyo, maalinba tilaabo la qaado, ilaa muxuu ahaa hataad u garanaysaan qur-aanka aad ka helaysaan 50% wada nasakhan oo ay nasakheen ama baabaasheen ayada kadib ka soo degay markii dadkii fikradiisii iyo garabkiisii siyaasiga ahaa iyo aqoonsigii aadaminimadu oo hore u kacay. waxaan rajaynayaa inay dalaqooyinay hor fadhidaa iyo soomaalida kaleeto iga maqli doontaa baalkan ee microfonka haddaan hor taagnahay ama raadiyo iga maqli doontaa inay wax magaradka cilmiyaraha qur-aanka duleeyaha muxuu ahaa islaamka halleeyaha inay saas u sheegaanin. waa gar in aad ila yaabtaan. waa gar maxaa waay? waa laydinku shubay weligiina laydinkama shubin. anna haddaan idinku shubay wallahi anaa idin fiican iyo bilah waa kitaab kaamila. wallahi naseexanaa idina waxay idinku shubeen waa beento. qaraaba idin lama ahayn, beshiina dan kama lahayn, wadankiina dan kama lahayn, sharafkiina dan kama lahayn, ummadnimadiina dan kama lahayn, inaad xifataan iyo xorood midna iyagu muraad kama lahayn. dantooday wataan. waxay ruuxooda weligood inay tooda idinku daafacaan. laakiin diyaar baanu ahay taanada inaan daafacno. naftiisagaba naf kala ma kalkaalo. markaan anagu teenna hanano ayaynu dadkala waxtari karnaa. marka hadalkaas ujeedaydu waxaa weeye war mukhafinimo waktigeed gudub. waxaynu dhignay soomaaliya 75% ama 78 dhawaad baa maanta wax qori kara. marka masibraar baan weligana ahaanayna. roog salad iyo muxuu ahaa guleed bin culeyd oo laba taajira weliba xoolada daafacaya miyaa anagu xaliil u ahaanayna oo beenta ay dhigeen baan dhigayna. oo marka wax alla wixii aynu wax ku qabsan karno oo ama fikradda ama farsamaa miyaa laynaga seexinaya? yaa lama yeelayna. bas gaajaysan 10 maalmood qabay iyo diinka yaqaan hadday naagtahay dabada rabanaysa. maxaa waxay noloshu waa xaq inay noolaato. taasi waxayd khudbaddii uu jeediyey maxamed siyaad barre sanadkii 1975 markii la soo saaray xeerka qoyska. waxaana xeerkaasi lagu beegay sanadkii jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa ay ugu tala gashay inuu noqdo sanadka haweenka. dhegaystayaal imakana waxaanu idin maqashiin doonaa aayadaha qur-aanka ee ka hadlayay dhaxalka xagga qoyska ee wadaadadu ay markaasi ku doodeen in uu madaxweynuhu ka been sheegay. kadib marka aad dhegaystaan aayadaha qur-aankana sheekh maxamed macalin oo ka mid ah wadaadada diinta sida xooggala u yaqaan aadna dadka soomaaliyeed u yaqaaneen ayaa aayadahaasi tafsiirkooda sheegaya. yuusiikum allahu ilaahay wuu idin dardaarmaya fii awlaadikum fii sha'ni awlaadikum. awlaadiina aad dhasheen sha'nigoodu idin dardaarmaya isaga xaqood idinka jecel. yacni bani aadam
bini aadamka fiiri awlaadi adigu waa dhashaa lagu dardaarmaya ilaahay kuu dardaarmaya yani ilaahay siduu khalqigiisa yani u jecel yahay siduu ugu roon yahay awlaadaad dhashay ee adigu kaa soo go'day iyaa sidaad ula mucaamaloon lahayd ba lagu dardaarmaya oo lagu leeyay sidaa iyo sidaasi haddii kale adigu lagu daayo waxaa suura inaad qaar qarisid yaa dhici karayso kolka ilaahay baan ogolay dardaarankii waa maxay lidakari kan lab waxaa u sugnaaday mithla xadil unsayayni laba dhedeg dheeftooda u sugnaatay laba dhegedeg intay qaadato iyo ninkii qaadanaya haddii meesha ninka oo ka tegay wiilal iyo gabdho wiilkii laba gacmood buu leeyahay iyadan gacan bay leedahay fa in kunna hadday ahaadaan yani caruurtaa laga tegaya nisaaa naago hadday ahaadaan naagahaasoo fawqa sanatayni laba iyo wax ka badan ah hadday ahaadaan falahunna naagahaas hablahaas waxay leeyihiin thuluthaa maa taraka maydka wuxuu ku tegey labadiisa thuluth bay leeyihiin ninkii wuxuu ku tegey waa dhintay laba gabdhood iyo wax ka badan buu ku tegey waxay leeyihiin maalka markii 3 loo dhigo laba gacmood bay leeyihiin wa in kaanat hadday ahaato gabadha oo ka tegey waaxidatan mid hadday ahaato ninkii waa dhintay hal gabar buu ku tegey falahaa iyada waxaa u sugnaaday nis bay leedahay maalka nuskiisay qaadanaysaa wali abaweyhi maydka dhintay labadiisa aabo waxaa u sugnaaday hooyadii aabihii waxaa u sugnaaday likulli waaxidin mid la arko oo minhumaa labada aaba kamid a waxaa u sugnaaday assudusu meeshii 6 ayaa u sugnaatay minmaa kii xaggii bay ugu sugnaatay taraka oo ku tegey nin baa dhintay labadiisa aabuu ku tegey aabihii hooyadii buu ku tegey mid walba aabihii hooyadii mid walba wuxuu leeyahay sudus iyuu leeyahay meeshii 6 waas goorma in kaana hadduu ahaaday lahu maydkaa dhintay waladun hadduu walad u yahay nin baa dhintay caruur buu ku tegey ama gabdha ha ahaadeen ama wiilal ha ahaadeen wuxuu dhalay buu ka tegey aabihii hooyadiina waa ka tegey aabbahay hooyada waxay leeyihiin maalka mid walba meel 6 baa laga siinaa mid walba meel 6 ayay ku leeyihiin maadaama isaga awlaad uu leeyahay fa in lam yakun hadduunan ahaanin lahu maydkii waladun walad hadduun u ahaanin oo warisahu ay dhaxlaan abawaahu labadiisa aaba keliya ay dhaxlaan faliummii hooyadii waxaa u sugnaatay athulusu meeshii 3 wuu dhintay caruur ma laha aabihii hooyadiiba ku tegey aabihii hooyadii iyo ku tegey hooyadii waxay leedahay meel 6 iyay leedahay inta kale waxba kuma laha aabbahan iska qaadanaya midna waa nasiib midna waa casab kaasi waxa uu ahaa sheekh maxamed macallin oo sharax ka bixinayay aayadahaasi qur-aanka haddaba cismaan maxamed jeelle oo ka mid ahaa golihii sare ee kacaanka oo barnaamijyadan aannu si weyn ugu soo xiganayno ayaannu wax ka weydiinay go'aankii xeerka qoyska iyo wixii uu kala kulmay madaxdii waddamadii carbeed markii loo diray inuu ka soo qanciyo go'aankaasi ay qaadatay dowladdii militariga ahayd ugu horraantii waan rabaa inaan kuu sheego horta anigu inaanan goobjoogayn oo dalkaba joogin markii qaanuunkaa la keenay ama la ogolaaday ama wadaadada la dilay waxaan jiray qaahiro baan jiray waxaan soo saxeexayay waxaa la yidhaha alwuxda aliqtisaadiya alcarabiya ama midaynta dhaqaalaha carbeed wax la yidhaha markii aan ka soo baxayna waxaan ku maqlay arrintani anuu sanca joogo oo yeman sii marayo ayaan ku maqlay markiiba taar baa lay soo diray degdeg usoo galay leeyahay ayadoo lay odhanayo waxaad hogaaminaysaa wafdi oo haddana dalalkii islaamka oo shirku qabo waxaa jiray shirweynaha culamada muslimiinta wax la yidhaha oo markaa laga sheegay baytulmaqdes ayaa waxaa lagu qabanayay baghdad marka muctamar culamaa almuslimiin waxaa kasoo qeyb galay wasiirada awqaafta ama diinta ra-iisul wasaareyaal qaarkood rag badan oo baarlamaan ku jiro maalintaan galay maalin saddexaadkiiba haddana aan soo dhoofay waxaan isku dayay inaan mataqaana adigu ka galgasho oon idhaa wala arrintan anigu ma daafici karayo mana qabin horena marar badan baa la isugu dayay in la keeno laakiin waa la diidanaa waanu diidnay arrintaas kuma aanan guulaysan aakhritaankii inaan wafdi hogaamiyayo ay noqotay markaan inta kuu sheego wanaag fara badan kalama aanaan kulmin maxaa yeelay shirkii nafsadiisu waa u cambaaray horta mataqaanaa soomaaliya anigu kulley meesha hadal baan ka jeediyey laakiin hadalkaaba ma noqon karayo midku difaacayo wuxuuse noqon karayaa mid oo dhexdhexaad aho war adduunka uga sii darinaha marka waxyaaba la difaaci karaya maanay ahayn madaxyaalka qaarkood anay naba qaabilinba sida anwar saadaad allah u naxariiste ixtiraam ahaan waan ixtiraamay cabdullahi konga ayaa safiir meesha ka ahaa guri la yidhaaha qasrulcuruuba oo 2 maalmood ka hor boqor xuseenkii dhintay allah u naxariistay isaguna adduunka wada dhamaaday
uu ka baxay oo boqorradii madaxweyneyaalka lagu soo dejiyey ayagu aniga igu dejiyey wafdigiina guryo kale ayaa la geeyey laakiin warqaddii inuu naga qaado ayuu diiday haddaba dhegaystayaal diidmadu kuma koobnayn madaxweynihii hore ee waddankaasi masaarda anwar saadaat oo qudha ee waxaa jiray madax kale oo carabeed oo ka cadhootay xeerkii qoyska ee milatarigii soomaaliya qabsaday ay soo rogeen iyo dilkii la dilay wadaadadii sheegay in xeerkaasu uu xadgudub ku yahay diinta islaamka sida cismaan maxamed jeel uu noo sheegay waddan kale oo carabeed ayaa isna boqorkiisu uu diiday inuu la kulmo inkasta oo markii dambe laysku noqday oo lala kulmay cismaan maxamed jeelle ha inoo sii faahfaahiyo habeenkay dib isugu noqdeen waana noo galay isagoo waxba kala oran warqadiina intuu qaada meel iska dhigay sidii waxaan astaahilin la akriyo ilaa waxay ka hadli uu sii ogyahay kumuu ahaa boqorkaasu allahu naxariisto boqor faysal u ahaa markaad dhinac iska dhigto dareenkaasi dalalka muslimka ay qaateen ka sokow inkastoo dii sheegtay adigu inaad goobjoog ahayn markii go-aanka la qaadanayay wadaadada lagu dilayo maxaad ku warqaadatay golihii mayay isku wada raaceen mise sidii hanti wadaaggaa la isku diidanaa saan kuu sheegay horada waa loo diidanaa qaanuunka waxaa jiray shir kale oo shirka culamada islaamka aan kuu sheegay baghdad ka dhacayay reer socday oo la yidhaah shirkii haweenka adduunka oo mooska ka dhacayay marka waxay ii sheegeen in guddi loo saaray guddigaas oo madaxu ahaa maxamed sheekh cusmaan oo hadda weli joogo markaan warsaday maxamed sheekh waa nidhi maxaa say wax u dhaceen wuxuu ii sheegay inay talo ku bixiyeen inaan loo baahnayn qaanuunkan wax muwaadahoo maanta annaga nooga hadlaabaynayna jirin wuxuu naga bi'iyo mooye xataa wuxuu ii sheegay in hablo ku jiray shirka oo ay ka mid ahayd faadima axmed caalin cureyo inay diideen in la yidhaah aayadihii ilaahay ayaa haweenka dartood loo bedelay dib ayaynu ugu soo noqon doonnaa arrimaha soomaaliya hase yeeshee haddii aynu u baydhno dhinaca jabuuti bishii noofembar ee sannadkii 1947 ayaa doorashooyin ka dhacay waxaa maamulka xoog ku yeeshay mujtamaca cafarta xisbigii la odhan jiray LPAI ayaa isaguna rasmi ahaan waxa uu noqday xisbiga mucaaradka waxaa jiray jabhad kale oo mitida oo marka magacooda lasoo gaabiye la odhan jiray FLCS oo iyaguna saldhigoodu ahaa magaalada muqdisho bishii May ee sannadkii 1975 ayaa xisbigaasi dad taageersani waxay afduubeen danjirihii Faransiiska ka joogay magaalada muqdisho falalkii kale ay ku kaceenna waxaa ka mid ahaa bishii February ee sannadkii 1976 ayaa waxay afduubeen gaadhi basa oo siday carruur ay dhaleen ciidamadii milatariga ahaa ee Faransiiska ka fadhiyey Jabuuti waxaana ay ku xidheen sii deynta carruurtaasi in shuruud la'aan xorriyad lagu siiyo Jabuuti hase yeeshee waxba kamay suuroobin waayo ciidamada Faransiiska ayaa weerar ay ku qaadeen waxa ay ku soo furteen carruurtaasi iyadoo dadna ay ku dhinteen haddaba bishii Disembar sanadkii 1975 ayaa kadib markii uu kulan dhex maray Cali Caarif Burhaan oo madax ka ahaa Jabuuti iyo madaxweynihii Faransiiska ee wakhtigaasi Giscard waxa la isla gartay in Jabuuti ay xornimo qaadato Faransiiskuna uu saldhigood halkaasi ay ku sii lahaadaan xagga militariga bishii March ee sanadkii 1977 ayaa wadahadallo lagaga hadlayo xornimada Jabuuti ay ka dhaceen magaalada Paris bishii June 27keedina Jabuuti waxa ay qaadatay xornimadeedii waxaana madaxweyne ka noqday Xasan Guuleed Abtidoon ra'iisul wasaarena waxa ka noqday Cabdalla Maxamed Kaamil waqtigaasi ayaa jamhuuriyadda Jabuuti waxa ay noqotay wadankii 49aad oo ka mid noqda ururka midnimada Afrika iyo wadankii 22aad ee ururka Jaamacadda Carabta barnaamijkuna maanta dhegaystayaal halkaa ha inoogu joogo